dhammaantiin sida wada ogtihiin caawa waxaa martin oo ah wasiirka ku-xigeenka hore arrimaha dibadda wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada xildhibaan 2012 haddana ah xildhibaanadii kamid ah golihii shacabka waqtigiisa dhammaaday xildhibaan mahad salaad ma aha markii ugu horreysay camal falas martin ugu ahaa goor horena marti uu nagu ahaa naga update garay wixii shirkii Dekel Hotel ka dhacay caawna aad ayuu nagu mahadsan yahay waqtigiisa ciriiri ah inuu nala wadaagayo marka xildhibaan toosa u galaynaa soo dhawo xildhibaan عمي ما سنتهاي سفع اللي مغلان رجينا سفع أنا أقول مغلايا وما سنتهين خيارتك لنا والسلام يا وحان ربعين عن توس وقالو أجندها دودان لكن انت أنا ما أنت يوحي دعيانا قلنا وحان ربع وحير وباك جراونا إنا نكسي أرنتان مدكورلين يهورتا marxaladii ay soo martay iyo duruufaha mar walba lagu sheegay si aad la socotiin sharcigii baarlamaanku 2019 uu ka dooday sharciga doorashooyinka la dhigi jiray qof iyo codaha ka yimid markii hore xukuumadda madaxtooyada la soo mariyay kadib versionkii xukuumaddu ay ansixiyay version ka gedisan madaxtooyada ay soo gudbiday qodobkiisa 56 ayuu ku qornaa arrinta ku saabsan muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha dawladda kadib markii baarlamaanka la keenay oo guddigii ad hoc ah loo saaro laga soo dooda la yiri dood dheer ayaa ka timid doodii markii ay ka timid in muddo ayaa la isku haystay xildhibaanada qaybo badan oo kamid ah runtii sidaas u qorna ay u rabeen laakiin dood iyo consensus laga dhex raadiyay labada aqal ee baarlamaanka iyo xildhibaanadii kala aragtida duwanaa ayaa markii dambe xalwiish iyo qodobkii 53aad sharcigaas doorashooyinka in la yiraahdo haddii doorashada qof iyo cod ay qabsoomi weydo golayaasha baarlamaanka ayaa lagu soo celinayaa ayagana go'aan ka gaari doona xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa soo baxda hadalhayntan muddo kordhinta iyo sida loo dabacsan yahay waxaa jira waraysi aan u malaynaa intiina badan inaad aragteen oo 13kii bishii February 2020kii madaxweyne farmaajo uu siiyay Universal iyo khudbadii uu ka jeediyay habeenka uu saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka 20kii bisha February 2020 oo ku sheegay in doorashooyinkii la soo qabtay sanadkii 2012 iyo 2016 inay ahaayeen sharci darro sharciga doorashooyinka saxiixaya caawana uu yahay uusan ahayn midkii asagu uu rabay laakiin golayaasha baarlamaanka ay wajiibka kala soo baxeen mas'uulna ay ka yihiin nidaamka doorasho ee dalka sida inuu noqdo marka la eego nuxurka marka oo la taxliiliyo nuxurka hadalka madaxweynaha wuxuu dhacayay doorasho qof iyo cod ah inaan dalka laga qaban karin marka la fiiriyo shuruudaha ku qornaa sharcigaas iyo duruufaha amni iyo kuwa siyaasadeed ee dalka ka jiray iyo muddada kooban oo markaas la haystay iyo sidoo kale qodobka labaad oo ahaa doorasho dadban in la qabto inay sharci darro tahay dastuurka dalka iyo shuruucda qarankana sharciga doorashooyinka qaranka saxiixana aysan waafaqsanayn iyo in loo baahan yahay muddo kordhin in loo sameeyo hay'adaha dawladda golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha si doorasho qof iyo cod loo qabto kadib sharcigu waa suuro geli waayay in lagu dhaqmo oo doorasho qof iyo cod la qabto baarlamaankiina in inta lagu soo laabto la yiraahdo go'aan ha gaareen sidii ku qornay qodobkii 53aad ayadana waa suuro geli weysay ayadoo isjiidkaas jiro ayaa marka waxaa bilowday shirkii Dhuusamareeb lagu qabtay oo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay Dhuusamareeb 1 iyo 2 iskugu tageen kadib shirkii 3 Dhuusamareeb waa tii la qabtay isagoo kala qabya kadibna xamar la iskugu yimid la gaaray heshiiskii 17kii September lagu gaaray magaalada Muqdisho baarlamaanka markii heshiiskaas la keenay oo la yiraahdo hal ansixiyo ayaa golayaasha baarlamaanka waxay ku dareen qodob kale oo ay leeyihiin doorashadan dadban ee lagu heshiiyey ta laga soo dooranayo golayaashii bedeli lahaa golayaashan sharci dejinta ayaga ayaa sii shaqeynaya taasoo runtii bays u ahayd dekreetaha ka hor madaxweyne xasan sheekh oo saxiixay oo ahaa doorashadii markii la aaday muddaxileedka hay'adaha dawladda haddii uu dhamaado inta golayaasha sharci dejinta aan la soo dooran kuwan ayaa sii jiraya si firaaq dastuuri oo soo imaan laakiin micnaheedu inay succession ay sababtoo ah doorashada waxaa lagu heshiiyey markaas lagu jiray muddo adiga bil kadibna waa tii waxaan u malaynaa
September ayay ku agaamid xiriirkii madaxweyne Xasan Sheekh Octoberna waxaaba la doortay golayaasha sharci dejinta xildhibaankii ugu horreeyay aqalka sare ayaa soo baxay oo waliba galmudug ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 4 marka heshiiskii 17 September waa tii madmadow ka soo laabtay qodobo kamid ah la isku qabtay isqabashadaas marka waxaa ka yimid in shirkii dhuusamareeb 4 la iclaamiyo oo dhuusamareeb la iskugu tago ayadoo marka laga doodayo caqabadihii heshiiska soo wajahay iyo sidii loo xalin lahaa ayaa madaxweynuhu meeshaas ka soo tagay loona ballansan yahay dhamaystirka caqabadaha runtii markaas shirka ka jiray heshiiska jiray oo la isu sheegay soo laabashadaas waxaa isla soo jaan qaaday madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye Mursal oo arrintan extensionka ama muddo kordhinta in muddo gooxeedu uu socday laakiin aysan banaanka ooli taasoo runtii markii shirka dhuusamareeb 4 la iskugu tagay gudoomiye Mursal oo kamid ahaa dadkii ka shaqeynayay shirku inuu soo fashilmo Farmaajana uu ka soo tago gogosha dhuusamareeb ka fidsaneed ballanqaad marka xilligaas waxaa jiray in baarlamaanka la fariisiyo muddo kordhin la sameeyo 2 sano labadaas sano la yiraahdo doorasho qof iyo codaha lagu qabana Farmaajo dhuusamareeb markii uu ka soo duulay subaxdii horeba baarlamaanka aniga waxaan kamid ahaa xildhibaanadii yimid oo ayaga ruuxooda dhuusamareeb ku sugnaa laakiin safarkaas madaxweynaha markuu soo baxay ayaguna soo baxay isku diyaarad dabcan ma ahayn laba diyaaradood kala saarnayn subaxdii hore markii baarlamaanka aan waxaan u maleynaa 3 saac aan soo degnay 3 saac iyo bar 4 saac camal aan oo subaxnimaan mid baarlamaanka waxaan u nimid baarlamaanka oo ciidamo dharcad iskugu jira iyo kuwa koofiya cas laga soo bixiyay xarunta golaha shacabka sidoo kale waxaa kulankaas dibad joog ka ahaa banaankana ka joogay warbaahinta gudaha iyo dibadda sidoo kale markii buuqaas runtii culays badan xildhibaanadu ay ku qabeen xataa soo gelitaanka hoolalka shirarka oo wiilal yaryar oo dharcad runtii ay taagan yihiin oo nabad sugidda iyo meelo kale hadda ay ka socdeen aanan aqoon laakiin qaarkood nabad sugidda inay ka socdeen loo sheegay intaas markii ay dhacday xildhibaanadanada waa shirnay waxaan u tagnay geenka oo markaas joogay gudoomiyaha Soomaaliya Galin Cabdiweli Muudey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaan kala doodnaa arrintaan ka weydiino su'aal aan leenahay sidee ku dhacday maxaase ka jira meesha haddii madaxweynuhu imaanayo inuu hadlo oo rabo xildhibaanadu caadi in loo dhageysto wax mushkil ah ku jira lama arko laakiin ciidamadan faraha badan oo meeshan la keenay iyo hadal hayntaan ah in baarlamaankii waliba golaha iyo ay ka wada shaqeynayaan madaxweynaha in extension la sameeyo sidee wuxuu jiraan xubno waxaa jooga sidoo kale aqalka sare kamid ahaa oo runtii aan ku casuunayn kulanka sida aad ogtahay joint session marka la qabanayo ama kulan labada aqal iskugu yaan procedure loo mar ayuu leeyahay labada goobta xilliga la qabanayo ajendaha la isku sheego sidaas golayaasha lagu meeshaan wax badan oo isugu jira sidee wuxuu jiraan wuxuu kala soconeen ayaga arrintan laakiin sidaas ugu tagay guddiganagii xildhibaanada ahaa oo la saaro markii meeshaan isku wareysanay runtii indha cadays aad fara badan aan kala kulanay laakiin markii jijidar yiri aan iskugu laabano aniga ayaan idinku soo warcelinay sida aan ku maqano kolleeyga madaxweyne Farmaajo ku laabtay kadibna isaga iyo Farmaajo waxay isla qaateen in sida aan gadaal ku ogaa doono kadib inuu waa la maqlaa u maleena telefoon iga soo dhaxgal iga raalaaday ama waa la maqlaa Soomaa si fiican lagu maqlaa xildhibaan iga raalaada telefoon iga soo dhaxgal iska bixiyay وما سنتين طبعا مدحوينه فرماجي markii gudoomiye Mursal ay sarkeen waxaana loo sheegay annaga in lagu heshiiyay in aqalka sare meesha laga saaro meedii banaanka jooga la soo geliyo madaxweynuhu qudbeeyo fursadaas la siiyo xildhibaanadu ay dhageystaan kadibna shirka baarlamaanka sidaas lagu soo xiro waxaana meeshaas hadal hayn markii ka jirtay laakiin dib ka soo bixi doonta in qorshihii muddo kordhinta
ee la waday ra-iisul wasaare Roble loo soo dhiibi doono sidaasna isagu khudbadii meesha uu uga akhriyay madaxweyne Farmaajo kadib Roble ayaa soo dirsada codsigii ah inuu golaha hor yimaado gudoomiye Mursal waa ka aqbalay laakiin procedure ayaa jira marka ra-iisul wasaaraha kala imaanaya ama ajendayaal golaha shacabka la keenayo procedure-kii sharciga ku qornaa xeerosaadka golaha shacabka uu tilmaamayo runtii lama soo marsiinin taasoo dood ka dhalida xildhibaanada dhexdooda sababtoo qodobka 25aad xeerosaadka ayaa xeerinaya in ajendaha loo qaybiyo xildhibaanada 24 saac ka hor kalfadhiga loo dhan yahay inta uusan furin waxaan codsanay marka ra-iisul wasaaraha imaanshihiisa iyo xeerosaadka golaha shacabka in la iswaafajiyo siday usoo kala horeeyaan loo kala hormariyo ajendaha marka koobaad loo qaybiyo xildhibaanada soo darsaan kadibna isagu dib uu ka yimaado sida xeerosaadku uu tilmaamayo maalinkii uu yimid oo imaanshihiisii Roble uu imaanayay waxa maalin ka hor na soo gaartay xan aan helnay oo ahayd in muddo kordhintii Farmaajo ka leexda loo soo dhiibay Roble waliba ila wareediye markaas ku dhawaa isaga xafiiskiisa runtii arrintaas noo xaqiijiyeen sidoo kale subaxdii hore markaan nabad golaha waxaa laga soo bixiyay isla ciidamadii dharcadkii ku koofiyay astaaha warbaahinta mar kale ayaa banaanka lagu celiyay mar labaad ayaan haddana inta is abaabulna xildhibaanadanadii aan u tagnay guddoonka waa la fariisanay waan weydiinay siday wuxu jiraan iyo caqabadahan soo laabanaya mar walba oo maalinkii hore madaxweynuhu uu yimidna runtii soo laabtay hadda oo prime ministerku uu balansan yahana maanta inuu khudbeeyay ay tahana sidoo kale u soo laabtay sida naloo sheegay annaga warbixintii 100 maalmood inay xukuumaddu meeshan prime minister ka jeedi doonaan naloo sheegay sabab marka ciidamada cadadkooda intaan la egyahay loo keeno waa fahmi la'aana waxaan u baahanahay ku dhir gudoomiye uu naloo sharax meeshaas waxaan iskula qaadanay warbaahintii ayada ruuxeeda dibad joogga laga dhigay baarlamaanka in horta la soo daayo ciidamadii dhar cadaayo gudaha ku jirana la bixiyo muddo kordhin wax la yiraahdo hadda maanta aan u joognana aysan jirin arrintaas arrin dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha xilligiisa inay ayagu ka hadlaan ay tahay oo loo dhaafay oo xukuumadda waxa ku qoran buugaas 100 maalmood anagana loo soo gudbiyay oo ajendadaha 24 saac ka horna loo qaybiyay intaas ay taariikhdaas dheer iyo wadooyinkaas ayaan runtii soo wada marnay mid waliba mid ay isu soo dul saarnaa mar walbana hadal haynta muddo kordhinta iyo extensionka golayaasha baarlamaanka loo sameeyay iyo tan madaxweynaha loo sameeyay iyo duruufaha mid waliba lagu dul dhisay runtii ay saas u kala gadgadisnaayeen laakiin ay soo laabanayeen marka haddii aan u soo laabto ajendihii maanta sida aad la socotaan arrinta aan uga hadalnay shirkii kutlada badbaado qaran ku yeelanay waa arrin runtii hadal haynteeda maalmihii la soo dhaafay ay socotay arrintan inay soo socoto shalay markii la soo diray ajendaha waxaan u aragnay isku day kale oo runtii shirka muqdisho ka socda lagu fashilay kii dhuuso mareeba loo fashiliyay oo iyadoo gogashii la fadhiyo dowlad goboleedyadii ay joogaan madaxweynuhu uu ka soo iyagoo muddo kordhin looga gacan haatinaya xamar mar kale lagu sii gogol xaarayay in dib boorka looga soo jafo muddo kordhinta uu raadinayay laakiin tuhumo ayay ahayd waxaana jira ama waxaana la taaban karaa anaga markii maanahay sababta tuhumada nagu dhaliday oo hadal hayntaasi u jirtana waxay ahayd baarlamaanka in muddo ah ma uusan shirin oo hadda maalmahan dambe fadhigiisu wax kulankan oo sidoo kale mar kale lagu soo beegay xilli muqdisho oo shir ka socdo in isafgarad la gaarana ay dhowdahay runtii oo sidii shalay iyo xalay ay noo sheegeen madaxda dowlad goboleedyada suuragal ay tahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay isku afgartaan arrimihii siyaasadeed ama madmadowgii ku dhex jiray heshiiskii 17 September in dib loo saxo isku aragtidoodu inay iskaga soo dhawaatay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa guddiga joogtada oo aan la soo marin ajendahan lagana soo ansixin sida uu qabo xeerosaadka golaha shacabka qodobka afraad tuhmada nagu dhaliyay wasaaraddii ku xil saarneed arrintan warbixinta in laga dhageystay ahayd ayadana ma aysan joogin oo kulanka kumaysan cazumnayn qodobka shanaad wuxuu ahaa guddi ad hoc ayaa jiray oo arrinta COVID-19 ka loo xil saaray oo tala inay ka soo jeediyaan oo daba galaan macaawinadii loogu talagalay dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo oo ama ha noqoto gobolka Banaadir ama ha noqoto dowlad goboleedyada iyadoo ruuxeeda la yiraahdo dabagal ku soo sameeya ayagana ajendihii ma aysan soo gudbin oo inta laga talageliyay waxay isku soo waafaqeen ayaga iyo guddoonka ma aysan jirin intaas waxaa sii dheer
ciidamo aad u fara badan oo dhar cad iyo koofiye casa ayaa runtii golaha la keenay oo boqolaal gaarayo meel walba soo buux dhaafiyey waxaan marka golaha markii aan nimid sidii caadadu ahaa jirtay labadii kulan oo horena marka waxaanoo kale ay yimaadaan mas-uuliyadda xildhibaanadana inaan qaadano oo guddoonka lala xiriiro oo guddoonka lala fadhiisto oo la yiraahdo waxaanan aragnay sidee wuxu jiraan si loo turxaan bixiyo cabashada iyo tuhmada aan ka qabno ajenda ayaan waxaan go'aansanay inaan markale aragno guddoomiyaha guddi ayaan u dirnay guddoomiye mursal dhankeena ka socda si loo gaarsiiyo cabashada markii aan u sharaxnay tuhmada aan qabno iyo ciidamada meeshaan laga soo buuxiyey iyo hadalhaynta jirta waxay taana shalahayn ayuu wuxuu noogu sheegay saddex shay kow wuxuu yidhi ciidamadan amarkayga ayay ku yimaadeen anaana dalbaday waana soo siyaadina hadii loo baahdo labo heshiiskii 17 Sebtembar waa fashilmay ayuu yidhi maadaama uu fashilmay annaga waxaan doorasho qof iyo coda loo qaban lahaa ama looga fakari lahaa qorsheed in la dhimaan qodobka saddexaadna wuxuu sheegay muddo kordhin ayaan u samaynaynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka sida aad la socotaan guddoomiyuhu ma ahan qof iska madax bannaan oo wixii raba soo xambaarsan kara ama sharci nidaam waddo loo marayo oo sharci waliba ay qeexan tahay waddada loo marayo ayuu guddoomiyuhu ku sida ku cad qodobka 14aad faqradiisa koobaad guddoomiyuhu wuxuu dhowrista xeeroosaadka ilaalinta nidaamka golaha wuxuuna ilaaliyaa howlaha sharci dejinta maamulka iyo maamuuska faqradiisa labaadna faqradiisa shanaadna waxay leedahay wuxuu matalaa kuna hadla magaca golaha shacabka taas oon hor imaanaynin ama wuxuu dhimaynin hanaanka sharci dejinta u deg baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka marka guddoomiyuhu shaqo fulina shaqo kuma lahan fariimana inuu inta soo qaado isaga uu soo xambaarto soo gudbiyo shaqadiisa ma sidoo kale ajendayaasha baarlamaanka la keenaa ama golaha shacabka waxaa lagu qeexay xeeroosaadka golaha shacabka qodobkiisa 25aad guddiga joogtada ayaa marka hore ajendayaasha fadhiga golaha soo diyaariya kadibna waxaa loo qaybiyaa xildhibaanada 24 saac ka hor sidaas ayaa golaha lagu soo bandhiga ayaguna inta aysan sii fariisan guddoomiyaasha guddiyada ayaa inta loo yeero oo lagala tashada waxaa la yiraahdaa soo gudbiya ajendayaasha guddiyadiina aad rabtiin sidaad la socoteen baarlamaanku guddiyo ayuu u qaybsan yahay dhowr iyo 10 guddiyadaasa marka xogaha keena guddiga joogtada u soo gudbiyaan guddi joogtada sidaas ku sameeya ajendaha golaha shacabka sidaas ayaana lagu keenaa fadhiga guud ee golaha shacabka halkaas markay marayso oo runtii wixii anagu aan qabno tuhmaha iyo fadhigii guddoomiyaha aan la yeelanay runtii sidii uu uga madax adeegay ugu dhiiranaa inuu xorsaadka golaha shacabka iyo dastuurka ku tunto halkaas markay marayso aanan aragnay nidaamka iyo sharciga iyo garashada midna inuusan u hogaansamayn guddoomiye mursal waxaan go'aansanay inaan runtii guddoomiyaha hor istaagno oo dhaano guddoomiye arrintan sharciga waa ka soo horjeedaa dastuurkana ma waafaqsana in lagu tunto sharci ka dhashay buuqiina wuxuu sababay baarlamaanka in la xiro sidaas ayaa baarlamaankii lagu soo xiro kalfadhigii maanta runtii uu kusoo gabagaboobay soo dhawaada waa mahadsantahay xildhibaan sida aad noogu soo koobtay xildhibaan waxaa jirtay maalin dhaweyd in madal ay adiga kutlad adiga aad madax u tahay hoteelka jaziira shirjar aad ku qabteen marka taa nafteeda ma noo sii faahfaahin kartaa oo waxa maanta socday iyo sidii taa iskugu xiran yihiin hadalkii maalin dhaweyd aad ka hadlayseen mis qabadsiin kartaa adoo mahadsan arrintaas waxay ku saabsaneed xogtaan hadda aan idinla wadaagayo ku saabsaneed inay madaxweynaha iyo guddoomiyuhu inta isarkeen ka shaqaynayaan muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda ayaa runtiina soo gaartay dareenkaas jiray ayaan annaga xildhibaanadana isku baadi goobnay shirkii khamiista uu ku dhacay isku sheegnay macluumaadkii aan hayno qolo waliba dhinacii ay xog ka haysay runtii ay meesha kusoo bandhigtay kadibna waxaan go'aansanay inaan baarlamaankana tagno guddoonkana lagala hadlo arrintan sidii caadada ahaa jirtaba laakiin hadde soomaalidu waxay dhihi jireen shak yaqiin ayaa looga baxay markii hadda baarlamaankii aan tagnay oo guddoomiye aan inta la fadhiisanay aan dhir guddoomiye sidee wuxuu jiraan nagama baqarin si aan leexasho lahayn oo noo sheega meeshaan ciidamadan la keenana isagu inuu keenay ujeedka meeshaan loo joogana ay tahay ama laga shaqaynayo ciidamadan hadda u joogaana ay tahay muddo kordhin sidii loo samay lahaa marka taas waa de wax iska dabiiciyay eed wixii marka tuunka ahaa oo annaga aan qabnay oo runtii maalinkii hore khamiista aan ka discuss garaynay oo media aan la wareegno dooni mayno in la carqaladeeyo wada hadallada muqdisho ka socda shirka u socda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka
heshiiskii 17 September ila dhamaystiran doonayna caqabadaha ka jira la xaliyay kadibna aan hore u sii galno doorashadii dalka uga dhici lahayd oo nidaamkii transitionka nidaamkan hadda ku meel gaarka ah golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda boqolo waliba hadda deertaan muddo xileedkeeda hadda uu sii dhamaaday in la gaarsiiyo sidii doorasho dalka uga dhici lahayd si dimuqraadiyan xukunka lagula kala wareegi lahaa sidii hore u soo dhici jirtay su'aalaha marba laba qofood aan soo saari doonaa sida ay inta markaa aan ka gaarno maxaa xildhibaanka waqtigiisu kooban yahay caawa aan u soo koobno marka waxaan cali baa hadda saaran cali walaal soo dhawo waa mahadsan tahay cami xildhibaan mahad salaam waan salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha cali yersug marka dadka waxaan sheegayaa qofkii su'aasha doonaya inuu gacanta soo taagto aniga only halkaas qofkii gacanta soo taaga aan ka soo qabanaya mahadsantiin xildhibaanka waxaan weydiin lahaa sida aan ognahay guddoonka golaha shacabku wuxuu awood u leeyahay in ajende markaas laga doodayo guddiyada qaabilsan ama inay kasoo doodaan ama in toos uu guddoonka u iclaamiyo kadibna shirka looga hadlo marka haddii ayaga ay qabeenba walwal maxaa u diiday inay si furan kuraastooda u fariistaan ayagoon buuq iyo sawaxan abuurin in ajendaha loo soo gudbiyo xala ay eegaan oo ama haddii asaga loo soo gudbiyana ay ka doodaan haddii asaga wax ka duwan lala yimaadana oo guddoonka baarlamaanku soo bandhigana ay diidaan oo ama markaas xaq waa u yeeshaan inay qayliyaan laakiinse in ayadoo guddoonkii golaha shacabka uusan imaan ay diidaan inay kooramkii saxiixaan si u buuxsano ajendihiina diidaan oo yidhahdaan ajendahan lagama ajende kalaa ku hoos qarsoon soo fowdo ma ahan taasaan xildhibaanka weydiin lahaa waa maasanta walaalkii ajendaha waxaan u malaynaa qaabka uu ku yimaado inaan sharaxay guddoonku ayagu inta iska hindisaan ajenda iska soo dafaan oo yiraahdaan sidaana ajenduhu uu yahay ajendaha golaha shacabka qodobka 25aad ee xorosaadka ayaa qeexay guddiyada guddoomiyaasha guddiyada waa inay guddiyada kala tashadaan samaynta ajendayaasha la horgeynayo guddiga joogtadana waa inuu diyaariyo ajendaha fadhiga golaha shacabka ajendahana waxaa loo qaybinayaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga loo dhan yahay marka procedureka agenda uu ku yimaado waa sidaas oo kale ajendaha waxaa kaloo wax ka bedeli kara haddii 10 xildhibaan ay soo jeediyaan fadhigu inta uusan bilaaban ay yiraahdaan ajendaha ku jira qodobada maanta ee golaha la hor keenay waxaan doonaynaa in wax laga bedelo ama wax lagu daro cod loo weydiiyo golaha shacabka sidaasna ajenduhu waa ku imaan karaa marka saddexdaas sifo ku imaan karaa oo kasoo bilaabato guddoomiyaasha guddiyada oo ku timaada guddiyada joogtada oo ku timaada golaha shacabka horgeyntiisa kadibna haddii xildhibaanadu ay wax ku darayaan 10 xildhibaan soo qoraan waraaq mooshin inta fadhiga uusan furmin guddoomiyaha ay u dhiibaan yiraahdaan guddoomiye waxaan ka codsanaynaa in fadhigan ajendaha wax laga bedelo ama qodobkaas laga saaro ama qodobkaas lagu daro kadibna cod loo weydiiyo golaha shacabka 50+1 hadday u codaydana sidaas ajendaha lagu diro marka sida ajendayaashu ay ku yimaadaan waa sidaas sida aad la socotana dalkan hadda institutionadan 27 bisha ayuu ku ekaa December 2020 golayaasha baarlamaanka ama sharci dejinta madaxweynahana xilligiisa wuxuu ku ekaa 7 February duruufta lagu jira dalkan waxay qasbaysaa marka in wax kasta ee siyaasadeed ee la doonayo in lagu dhaqaaqo si xasiloonida dalkan iyo kalsoonida dalka iyo dadka loo ilaaliyo in laga wada hadlo ayada ruuxeeda la soo turxaan bixiyo waana midda keenaysay markii hadda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay imaanayeen aan anagu guddoonka inta ula fariisano online waxyaabahan sensitivity ka dhalan karta in la xaliyo u baahan yihiin ee inta la fariisan si kalsooni ku jirto la isku qancinayay si dalka iyo dadka u fiican institutionada dawladana runtii sumcadooda ilaalinaya oo buuq iyo qaylo aan lahayn iyo karaamo beel lagu meel marinayo wixii lagu soo wada ayay ahayd tan guddoomiyaha aan ka rajaynayna runtii taas ay ahayd haddii tabasha ay timid oo aan aragno culays inuu jiro waan u tagna anagu ee kamaana gaabin kuraastanada maana fariisan dad qayle iyo buuq soo diyaar garooba anagu maanan ahayn waa la fariisanoo waxaan ku niriyay guddoomiyaha waxaan u baahannahay arrintan tabashada aan qabno in wax laga qabto markuu noo yimidna hadda nidaam runtii xeeroosaadkii iyo shuruucdii dalka uu taalay ka baxsan ayuu guddoomiyuhu ku dhaqmay hadduu ku dhaqmana xildhibaanku xaq ayuu u leeyahay sharciga oo lagu tumana hadduu yimaado inuu ka dhex galo xataa guddoomiyaha iyo xubin ka mida golaha iyagoo hadal jeedinaya haddii wax ka baxsan
shuruucda dalka ama xasaasiyad keenay ay ka hadlaan xildhibaanka miiska fadhiya xataa xaq ayuu u leeyahay inuu gacanta inta taago point of order qaato toosin oo yiraahdo waxaan sharciga ka soo horjeeda ha laga dhaafo ama waxaan xasaasiyadaani keenayaan ha laga dhaafo ama waxaan sidaanay ku qaldan yihiin ha laga leexdo xildhibaanku xaq u leeyahay mid aan u soo istaagna marka waxay ahayd xeerosaadka golaha shacabka oo lagu tumanayo ayaan aragnay marka inaan inta soo istaagno gudoomiye aan dhahno tan xeerosaadkay ka soo horjeedaa soo waafaji xeerosaadka inuu gudoomiye wuxuu lahaa inta qaado uu yidhaha maasan tihiin kalfadhigana waa noo xiran yahay waana qaada ajandahan waxaan geynayaa guddiga joogtada waa lasoo ansixinaa waa la idiin soo diraa procedureka xeerosaadkaana lasoo waafajinaa laakiin runtii sida indha cadayska iyo handadaada iyo tilaaba la idinka qaada wax runtii dalkan iyo dadkaana hadda horumarkiisa ka shaqaynaya ma ahan wax nidaamka noo degan ku wanaagsanna ma ahayn waa mahadsanta mahadsanid xildhibaan waxaan jeclaan lahaa inaad nood qaadatid maxaa yeele laba qofood aan u qaadanayna cabdiraxmaan xudeyfa soo dhowo walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي فايلس هذا وما سنت حلبان كنا والسلام يا حلبان مرة دي حالة لوجر أي حالة آد قطروة ودنك ستناس الآن أي جرتو قري قرن أي تاجنت هاي وفد ما ندوها استين وحلكي سكسر الله من دون أنا أي سنجرين محاد دي ذا يا إناد أقلاتان إن مدكورين للسمايو adigoo damaanad hadda ma haysatid inaan kale inaad ku soo laaban doontid ma haysatid maxaa diidaya arrintaas waa qodobka koobaad qodobka labaad guddoonka baarlamaanka ama baarlamaanka hadda jira ee waqtigiisu dhammaaday horta sharciyan xaq ma u leeyihiin inay kulamo sharciyo lagu hormarinayo sida muddo kordhin ma samayn karaan waa mahadsan tahay walaal nuur soo qabsadna aad baa umahadsan tahay camay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan mahad iyo dhammaan akhyaarta kale aad baan u salaamayaa xildhibaane laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan ku weydiiyaan jeclahay kow waxaa weeye fadhiga xalay marka la cilaaminayey qoraalkii laydiin soo diray ama xildhibaanada loo qaybiyey waxa uu ahaa hal ajende oo ku saabsan arrinta covid-19 caabuqa coronavirus ma aysan jirin qodobkan kale dabcan kumuna jirin qoraalka laydin diray intaan baraha bulshada ka aragnay idinku xageed ka keenteen xogta in muddo kororsi ay samaynayo baarlamaanka la dhex keenayo oo qorshahaasi la wado xageed ka keenteen maxaad se u sugi weydeen bal inta la fadhiisanayo baarlamaanku fadhiisanayo guddoomiyuhu fadhiisanayo ajendaha la soo jeedinayo maxaad u sugi weydeen oo aad ugula horboodeen taas waa qodob aad u mahadsan tahay qodobka labaad waxaa weeye idinku sharci dejin baad ahaydeen inkasta oo dee xilkii dastuuriga uu dhammaaday oo idinka iyo maaragtay hay'adaha kale ee dowladdaba uu ka dhammaaday baarlamaanku waa sideedaba waa sharci dejin weeye siyaasadda inaad ku dhex milanteen oo aad laba gurub kala noqoteen oo qolooyinkii kale fulinta ahaa ee isku haysa arrimaha siyaasadda sida madaxdii dowlad goboleedyada labada ahaa iyo madaxweynihii xilkiisa dastuuriga uu dhammaaday maxamed cabdullaahi aad la kala safantihiin haddii idinkii baarlamaanka marka aad laba kooxood noqotaan oo aad nimankii siyaasadda isku ceyrsanhayay aad la kala safataan yaa marjican noqonaya oo dadkan iyo dalkan iyay u baxsanayaan aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waxaan jeclaan lahaa intuuna xildhibaanka qabsan iminka su-aal waxaa timid hore loo weydiiyey xildhibaanka nuur waa weriye oo fahmaya qolada weriyaasha waxay jecel yihiin inay iyaga wuxuuda kala baxaan laakiin waxaan jeclaan lahaa hal su-aalna inay noo ahaato maadaama dadka aad u tira badan yihiin su-aal horena in waqtiga nooga dhamaan xildhibaan soo dhow xudayfa haddaan ku bilaabo horta xilka ilaaha bixiya isagaa marka qofka la siinayana samada ka naadiya marka laga qaadayana waa laga siibaa oo sida ruuxda loo siibo oo kale ayaa loo siibaa waata ayadda qur-aanka nasciga ay ku tilmaamayso walaalkayo marka horta annaga waxa horta ay runtii aan rabna inaan ka shaqayno ama aan u taagana waa istiqraarka dalkan isagaa muhiim noo ah xilka waa la helaa waana la waayaa haddii hadda nala doortana waa joogaynaa dadka naga u shaqaynaynaa haddii aan weynana ciddii kaloo timaadaan kula shaqaynaynaa laakiin annaga lama aanan dhalan kuraasta waxa marka aan doonayna waxay tahay qof waliba wuxuu leeyahay waqti dastuurka u cayuma oo ah muddo xileedkiisa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinka xilka loo dhaariyo sida qodobka 61 ee dastuurka oo xildhibaanada muddo xileedkooda xadidaya iyo qodobka 91 ee dastuurka oo madaxweynaha muddo xileedkiisa xadidaya
waxaan rabnaa marka 4 sano kasto sidii curfiga hadda uu soo ahaa laga soo bilaabo 2012 qof waliba marka muddaxileedkiisa uu dhamaado dadka uu matalo inuu inta ku laabto oo kalsooni weydiisto haddii la soo doortana uu dib dadkiisa ugu adeego haddii aan la soo doorana dadkiisa uu ka mid noqdo sababtoo haddaba boqolaal waxaa jirta xildhibaana nala ahaa wasiira nala ahaa madaxweyneyaal ahaa ra'iisul wasaareyaal ahaa oo hadda banaanka jooga kuwa kaloo ilaahay u calfaa jooga waxaan rabnaa marka nidaamkaas dimuqraadiga ee lasoo kala dhaxlay xilka lagula kala wareegay in xilka lagula kala wareego waayo waxaan doonayno hebel aa joogay waa jecelnahay iyo hebel aa joogay waa necebnahay midna ma aan annaga argumentigana halkaas kuma bees garaysa guddoonka muddo kordhin ma samayn karaan muddo kordhin sideedaba muddaxileedkaaga waqti uu leeyahay muddaxileedku dastuurka xadiday muddaxileedkaas hadduu kaa dhamaado wax muddo kordhina oo iskugu samayn karta adiga oo dhihi kartid anaa meeshan sii joogaya mid qof waliba kursigan markuu ku fariisto waa jecel yahay waa la dhadhan wanaagsan yahay laakiin waxa xadidaya ama xanibaya waa sharciga noo yaalla asaga ayaan rabnaa marka inaan ilaalino annaga marka wixii heshiiska aan ku ahayn haddaan ilaali weyno waxaanan heshiis ku ahayn kuma heshii karno waxaan doonaynaa marka dalka doorasho inuu aado muddaxileedkii 4 sano waa noo dhamaatay haddii fursad aan usoo helno ilaahay noo calfo dadkanagu ay nala jeclaadaan inaan markale u adeegnana inaan u adeegno haddii ay la jeclaadaan cid kalena ciddii kale ay doortaan inaan la shaqeyno arrinta ku saabsan nuur oo arrin su-aashiisa ahayd covid-19 ayaa la idiin soo diray iyo muddo kordhinta xaggee ka keenteen adinka aad sheegteen covid-19ka waa sax oo covid-19 ayaa la soo diray laakiin covid-19ka ajandihiisu iskama yimaado guddoomiyaha golaha shacabkana iskama lahan waa in ama wasaaradda caafimaadka ay keento ama guddigii ku shaqada lahaayo uu xil saarnaa covid-19ka oo reportkeena uu yiraahdo golaha shacabka ayaa la wadaagaya ama guddigii joogtada inta la shiriya ayagu ay yiraahdaan waxaan u baahannahay ajandahan in la horgeeyo golaha inta guddiga joogtada ah ka soo gudbo golaha shacabka saas uu ku yimaado intaas midna kuma imaanin markii aan wareysanay saddexdoodiina qolo waliba waxay yiraahdeen annaga war kama hayno guddoomiye ku-xigeenkii koobaad markii aan wareysanana aniga xoogaal uma ihiyo yiri waxaan u fahanna marka meeshaan waxa yaallo anaga shakigana geliyo waxay ahayd ajande intaas aysan war ka haynin in guddoomiyuhu inta soo hindiso uu yiri golaha la keena ujeedadu inaysan ahayn ajandaha covid-19 ajanda kale ku hoos qarsan inuu jiro annaga midda walwalka keenta taas ay ahayd waxaan ugu kalifay inaan meesha ku sugi weyne asagii inta aadna aan dhahna war waxaanan tabanaynaa guddoomiyo waxaanan jiray say wuxuu jiraan ma procedureka la waafajiyo ma ciddii shaqadan kale had loo diro waxaan maxaa loo qarinayaa haddii aysan wax ku jirin ma cidda shaqada kale inta loo dhiibo ayaga looga dambeeya ha deliver gareeyeen halkeenan golaha hortooda markii hadda tuhunkii aan isna riiqin uga baxo guddoomiyuhu tagana waa mid aan inta hor fariisana runtii uu noo sheegay qodobada ciidanka inuu isagu keenay muddo kordhin in la samaynayo heshiiskii 17 Sebtembar inuu fashilmay waxaasoo dhan hadda wixii nagula yiri marka hadda wax mala awaala maba ahanba ma ogtahay waa shaki yaqiin uga baxday la sheegi jiray shakigiina galay markaan inta soo qaadnay guddoomiye ula nimid istifsaar aan weydiina asigaba noo xaqiijiyo iyo halkaas loo socdo xildhibaan hadalkaaga waxaa ku jiray guddoomiye ku-xigeenka koowaad xildhibaan Muudey war kama hayo yiri sida ognahay labadooda ku-xigeenka guddoomiyaha iyo ku-xigeenka koowaad si dhow ay u wada shaqayn jireen iminka marka labadooda may kala jiraan saasay hadalkaaga u muuqdaa maya kala jirid maahan annaga waxaan ka hadlaynaa ajandahaanan guddoonka warsan oon ajandahan siduu u jiraa xagee waxaanu ka yimaadeen wax ku dhaama guddoomiye mursalna waa weyne guddoomiye mursal markaan u tagnana inta hadda aan sheegay ayuu noo sheegay arrinta ku saabsan walaalkay nuur hayga raalli ahaad arrinta ku saabsan siyaasadda aad ku dhex milanteen annaga horta siyaasiyiin ah siyaasadda inaan ku dhex milanno oo groups kala taageerno oo afkaar la kala aaminsanaado oo xisbiyo lagu kala jiro wax dabiiciya waaye waana shaqo siyaasaddu leedahay laakiin intanadaas waxa isu kaanahaynaya wuxuu yahay xeerosaadka golaha shacabka iyo dastuurkaas ku-meelgaarka kaasaa marka rabnaa dhammaantan inaan ugu wada adeegno oo waxa ku qoran oo heshiiska lagu yahay oo iyadoo annaga aanna joogin la sameeyey inaan asaga ilaalino wixii aan ku qornayn oo ku kala aragti duwanahana inta wada fariisanna inaan ka tashano dhahna sidee laga yeela amaansan waxaan qaadanaynaa axmed iyo faa'iizaan qaadanaynaa السلام عليكم دما إذا سلام عمي فارس يا حلبان مهد هذا سؤال شيء عن سوق مهد وحنا إنه شيء إنه وقت حلبان هذا أول ما هذا مركز سيدا كنت تكتادي ومهد صلاة وقت هذا أول ما سيدا قرأ برلمان كأكو تكتي أو ترى ما دعي كرتو إنا مذكر سيدا شيء ويسد يمدي كلام هدي يمدي كلام كدر صدايا سؤال أحمد أكو استاجنو sidee ku tagtay baarlamaanka ku istaagayna marka qofka kale u gudbin axmed raalna oo rumaadsan tahay faa'iido soo dhawo walaal assalaamu calaykum waxaa salaama xildhibaan intuu mad Soomaaliyeed ku jirto
aniga waxaa hal su'aal aan weydiin xildhibaanka maxay u dhacday baarlamaanka markasta shir galo in shirka dhexdiisa laisku khilaafo buuq ka dhaco firimbi laga yeeriyo maadaama adinka mas-uul ka tihiin ummadda soomaaliya oo dhan oo picturekiin oo dhan laga arkayo adduunweynaha kale adduunweynaha oo dhan anaga waxaana dhalinyaro jaamacadaha siyaasadda baratay anaga yacni maadaama aan maan u arkayno in baarlamaankan laisku dhex qabsado laisku dhex dagaalo miyuuna jirin sharci oo celi karo haddii khilaaf imaado taasaa weydii lahaa institution ma lahan miya baarlamaanka oo maasanta faa'iisa xildhibaan soo dhow waa mahadsantihiin su-aasha uu weydiiyey axmed sidee baarlamaanka ku tagay baarlamaanka waxaan ku tegay xildhibaan muddaxileedkiisii dhammaaday dalkaana doorasho inay ka dhacdaba sidaas ayaan ku tegey guddoomiye muddaxileedkiisii dhammaaday waxa keliya oo laga sugayana ay tahay baarlamaankan in extensionka la orda inta laga dhaafo dalkan doorasho laga qabto madaxweyne muddaxileedkiisii dhammaaday oo aan doonayno inuusan muddo kordhin uusan aadina uu ka shaqeeyo maamulada jooga ee martida u ah ee magaalada muqdisho la jooga inta la fariiso tanaasul isku sameeyo doorasho dalka inuu aado istiqaalkiisa laga shaqeeyo marka anigu sida aan ku tegey waa difaaca dastuurka waxaan oo qaranay xeeroosaadka 4 sano waa muddaxileedkaygu hadday dhammaadeen waxaan diyaar u ahay inaan deegaankaygii aado inaan dadkaygii ku laabto haddii la isoo doortana aan u shaqeeyo dadkayga haddii aan la isoo doorano cid kale la doortana inaan mas-uuliyaddaas kula shaqeeyo qofkii la doortay marka aniga waxaan ku taaganahay dastuurkaasi xeeroosaadka muddaxileedkaygu waa dhammaada waa sax laakiin waxaan rabaa muddaxileedkayga maadaama uu dhammaaday inaan ka shaqeeyo qofkii bedeli lahaa ama sidii anigu aan ku joogi lahaa oo ii sheeg aan kusoo laabalay dadkay kalsooni mar kale igu sii lahaayeen inaan uga shaqeeyo dastuurkaasi xeeroosaadka wixii intaas diidan waa ku khasbanahay inaan fikirkayga cabiroon iraahdo raalli ahow sharciga iyo dastuurka muwaafaqsan dastuurka iyo xeeroosaadka muwaafaqsan walaashii faa'iiso su-aashii weydiiday khilaafka annaga dhexdeena iyo runtii aadaan uga xumaa runtii dhallinyaradanada inay maantay ay goobjoog u noqdaan waxay ahayd inaan uga tagno dhaxal wanaagsan oo dalkooda iyo dadkoodaba mustaqbalkooda xutaraya aan noqono beri dad lagu dayan karo la dhihi karo dadkaas intii ay joogeen dalkii dadka waxbay tareen inaan ishaysano isku buuqno baarlamaanka dhexdiisa qayladanada sidaas banaanka uga baxdo dadka Soomaaliyeed runtii ay fikran wanaagsaneen ay ka qaataan golayaashii matalaya weliba la raba sharciga inay ilaaliyaan wax runtii aad iyo aad u nasiib darraa waaye laakiin hadde waa laga fursan waaye waxa looga fursan waayana waxay tahay wixii heshiiska lagu ahaa ayaa inta laga boodaya waxaa la rabaa waxaan heshiis lagu ahayn in la isku meeriyo taas ayaa keenaysa in la isqabsado taas ayaa keenaysa khilaafku inuu yimaado waa rajaynaynaa insha allah in laga bixi doono oo dastuurka iyo xeeroosaadka intuba waa cad yihiin qof waliba waxa xuquuq uu leeyahay waajibaadka saaran waxa ay yihiin ayada aan laga tilaabsan insha allah xildhibaan ma jirtaa in xildhibaan adiga aad kamid tahay magacooda la dhigay ilbaabka uu guddoonka soo saaray inaad baarlamaanka ka xiran tihiin nalooma sheegin mana aan arag ilaa hadda waxna soo gaara lama arko warkaas waa maqalnay runna waa noqon karaa beenna waa noqon karaa xildhibaan albaab soo ma geli kartid ma imaan kartid marka la leeyahay sharci in lagu yiraahdo u baahan tahay guddoomiye iskama hindisi karo aniga baa deerta anigu qolkayga jooga waa dhihi karaa guddoomiye baarlamaanka ma imaan karo laakiin sharci aan iskada u baahan tahay marka guddoomiyaha haddii hadda qola hadda ay ku hawlan tahay inay samaydana sharci u baahan tahay inay nagu qanciyaan oo yiraahdaan xeeroosaadka sidaan ayuu qabaa saan iyo sidaanaan yeelaydiin marka waa ku khasbanaa wixii dastuurka xeeroosaadka ku qoran aan hogaansano laakiin waxaa dastuurka xeeroosaadka aan runtii ku qornayn sidii maanta aan arkaynay maleeshiyaadka hubaysan baarlamaanka looga soo buuxinayo oo kala taas ma yeelayno mana hogaansanayn insha allah ismaaciil soo dhow waa mahadsantihiin daadayaasha barnaamijka waa ku salaamayaa xildhibaan madsalaad xildhibaan madsalaad su-aasheedu waxay tahay waxaa jirta xildhibaano ku dhowaad 150 lagu qiyaaso inaad madax u tahay oo aad maaragtay qorsheynaysaan in impeachment madaxweynaha aad ku samaysaan weliba meel ka baxsan baarlamaanka haddii ay jirto siday ku ansaxaysaa meel ka baxsan baarlamaanka inaad impeachment ku samaysaan waxaana sii raacsiin lahaa xilligan maanta la joogo sooma abuureyso qalalaase siyaasadeed sooma abuureyso ismaaciil hal su'aal keliya qaadanaynaa waa mahadsantahay ismaaciil inaa impeachment madaxweynaha ku samaysaan ayaa doonaysaa meel ka baxsan golaha shacabka aad u mahadsan tahay cabdirasaaq teer siday ku ansaxaysaa qalalaase siyaasadeed ma samaynaysaa arrintaas adayaad mahadsan tahay axmed faalis aad baan u salaamayaa xildhibaan mahadsalaad iyo dhegeystayaasha meelaha kala duwan jooga Soomaaliyeedba maad hal su'aal baan ku weydiinayaa oo ku saabsan 3 dhacdiyo tii maanta waxaad hore u meel mariseen afkaagana aad iminka ka sheegtay in xeerkii doorashada qof iyo cod ahaa ay ku jirtay isla muddo kordhinta iminka aad ka qaylinaysaan
oo ahayd in golaha baarlamaanka lagu soo celiyo haddii waxba la isku afgaran waayo hore sidoo kale tanaad maanta ka digaysaan ama ka qaylinaysaan waxaad meel ugu mariseen oo weliba burtuur u ahayd xasan cali khayre waqtigii lagu ridayey mar kale maxay tahay mudane mahad maanta waxaad ka qaylinayseen tu aad hore u samayseen markaas dadka ku dhegaysanaya waxaad mahad ka qancisaa haddii aad sheegtay in golaha lagula soo noqonayo sax ahayd ood meel mari soo ansixiseen oo gacanta u taagteen haddii tii xasan aad shalay toole sax taageeraad u hayso sharciga mise waa sharci darso mahad sharcigu ma midaad adigu jeceshahayba mise waxaad neceb tahay maasanta cabdirasaaq mahad soo dhawo xildhibaan waa maasan tahay walaalkay magaciisa inuu ii sheego jeclaan lahaa magaciisa qofkii horeeye waa ismaaciil ee ku weydiinaya ismaaciil waa qofka dambana cabdirasaaq baa la yidhahdaa waa maasan tahay ismaaciil horta impeachmentii annagu meelaan ku wadno iyo meel ugu qoraa midna maan la sheegin sharcina uma welin impeachment madaxweyne muddaxileedkiisii jooga oo shaqaynaya ayaa baarlamaan muddaxileedkiisii uu dhan yahay oo shaqaynaya ka keeni karaa marka baarlamaankan waqtigiisana waa dhammaaday farmaajona waqtigiisa waa dhammaaday marka impeachmentii meel lagu keeno ma taalo annaga waxaa u taagan hadda waxaa waaye annaguna inaan sii joogno ma rabno farmaajona inuu joogo ma rabno dalkan muddaxileedkanaga waa dhammaaday doorasho in la aadaan rabnaahe doorashada waddadii lagu aadayo ayada ha la qaado halka jid oo furan oo keliya oo annaga hadda aan ku shaqaynayna kaas waaye marka wax impeachmentiyo hadda annaguna aan wadno ma jirto ama baarlamaanka gudihiisa aan ka wadno ama banaankiisa aan ka wadno sharcina umaba lihinba waa de muddaxileedkanaga waa dhammaaday madaxweynahan muddaxileedkiisa waa dhammaaday oo hadda hartaan sabab hadda nin muddaxileedkiisii dhammaaday la yiraahdo impeachmentiya laga keena ay wax loo cuskana aanan aqooninba sababta oo dastuurkaa tilmaamay impeachmentiga sababta uu ku imaanayo waxa loo cuskanayo cidda keenaysa cidda laga keenayo waxa looga keenayana dastuurkaa tilmaamo marka dastuurkiyaaba noo tilmaamaba in muddaxileedkanagiina uu dhammaaday isagana muddaxileedkiisa uu dhammaaday marka meesha wax impeachmenti la yiraaho ku jira lama arko cabdirasaaq arrinta ku saabsan waxa aniga hore aan u sheegay aniga waxaan soo sharax waxay ahayd muddo kordhintan iyo sidii loo rabay iyo duruufii ay soo martay markii hore waxaa la yiri golayaasha baarlamaanka shaqaynayo muddada loo kordhinaya waa ka soo diilnay waxaan dhiray taladan lagula soo celiyo oo meel dhexaad timaado kadib waxaa laga shaqeeyay golayaashii dowladihii xubnaha ka ah dowladda federaalka ayagu inay is arkaan heshiis la soo gaaro kii 17 September la saxiixay doorashadana la aado meeshaas doorashada looga heshiiyey la aaday ololeedii in la aado la rabay ayaa waxaa la yiri inta ololahaas doorashadu ay kasoo baxayso oo xildhibaanadii baarlamaanka bedeli lahaa ay imaanayaan baarlamaankan si firaaq uusan u imaanin asaga ha sii joog waxa la isu sheegay baarlamaankii marka caqabada waxaa laga dhigtay in ay si dadban u leedahay haddii doorashadu ay qabsoomi weydo baarlamaankaana jooga sidaas horaa loo soo sameeyey baarlamaanka wuxuu jooga kii horeba agos 20keedii eed wixii la dhaariyey 10 Septemberna madaxweynaha la doortay baarlamaankii 2012 sidaas ayuu ahaa Octoberna xilli xubnihii ugu horeeyay baarlamaanka ayaa soo baxay marka muddaxileedkii baarlamaanka iyo madaxweynaha oo labada bilood ahayd iyo inta laga gaarayo doorashadii oo bishii October August iyo October waa laba bilood inta u dhaxaysay in baarlamaankaas uu sii jiro muddadaas yar oo koob taas ayay ahayd 2016 doorashadeedii lagu aaday midda hadda lagu ansixiyay oo base-ka laga dhigtay oo heshiiska markii lagu qorayo lagu qorana taas ay ahayd muddadaas kooban oo bil iyo 2 iyo 3 hadday u badato 4 iyo 5 waxay rabtaba ha noqotee in firaaqaasi uusan u imaanin loo sii kutubiyo hawlihii golayaasha sharci dejintu ay hayeen oo aysan firaaq meeshaas uusan ka imaanin way ahayd waxa la aada marka waxa anaga aan aadaynay oo aan sheegaynay oo la tilmaamay taasay ahayd nin jeclaanshiis iyo cabaashiis midna ma aan aniga waxa aan ka hadlay waxa sharcigu tilmaamaya waa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maalinkii 7 February sidii madaxweynihii ka horeeyay oo sameeyay 10 September la doortay 9kii waraaqda soo saaray wuxuu yiri laga bilaabo xilligan muddaxileedkaygu waa dhammaaday doorasho la aaday inta doorashadaas ay ka imaanayda shaqadii shaqa maalmaadka ahayd xukuumadda inay qabato iyadoo dastuurka uu tilmaamo qodobka 103 ha sii wadaan anigana murashax ana campaign-kaygan ka shaqeynaa farmaajo intaasoo kale aan ka rabin inuu meel inta fariisto yiraahdo campaign-kaygan ka shaqeynaa xukuumadda xilgaarsiinta qodobka 103 sidaasoo kale waraaq intuu soo saaray inuu yiraahdo ha loo hogaansamo shaqadiina ayuu ku sii meel samay laakiin inuu maanta dhex taagan yahay doorashadii oo caqabada abuura
oo dowlad goboleedyadii kala qaybinayo oo baarlamaankii inta ku soo laabto baarlamaan waqtigiisu dhamaaday uu leeyahay muddo kordhin ama ii samee adiguna samayso wax sharciga waafaqsan maan annaga marka waxa heshiiska lagu yahay ee shuruucda ay tilmaanto walaalow inaan u hoggaansanaan rabnaa wixii shuruucdu aysan tilmaamin ee duruufaho timaadana in la isqanciyo dadka siyaasiyiinta inta wada fadhiistaan ay isku sheegaan u baahan waa maasanta xildhibaan waxaan siinaynaa Fatima kadibna Liibaan anu waa mahadsan tahay xildhibaan ma hadda u mahad celinayaa laba arrimoodan maskaxda ku hayay haddii la ogolaado laakiin midda horaan ku hormaraya xildhibaan mahad waxaan jeclaa horta inaan uga mahad celiyo maanta madasha intii lagu jiray buu miidiyaha uu warbixin siiyey isaga iyo xildhibaanadii kale isku dayay inay hor istaagaan waxaa loogu magac daray muddo kororsi waa kaaga mahad celinaya laakiin waxaan rabaa bal ummadda Soomaaliyeed haddana dhageysanaysa iyo kuwa ku daawan doonaba inaa u sharaxadid waxaa saacadihii dambe kulanka kadib qabsaday miidiyaha dad ku dhaleecaynaya haweenka Soomaaliyeed inay ahaayeen dadkii qasay kulankii baarlamaanka maanta u cadeysid inay xaalku ahaa iyo inay ahaayeen xildhibaano dumar iyo rag isugu jira oo qadiyada ka soo horjeeda iyo kuwa kale difaacaya oo shaqo baarlamaan gudanaya Fatima ma santa walaashay waxaan u gudbaynaa Liibaan soo dhawow su'aashaada dhiibo Cami Falis si uu soo dhaweynaya soo dhawow Cami waa mahadsan tahay xildhibaan mahad salaad hal su'aal weydiina عوض دون وحكون نقطة حراسات iyo procedures haddii procedures iyo xirasad la soo mariyo muddo-kordhinta oo ajandaha la qaybiyo oo koramka la xiro oo si sax loo sameeyo extensionka xildhibaanka ma sida maanta ay sameynayaan masxab cusub ay ugu hor imaanayaan waa mahadsan xildhibaan su'aashii Fatima su'aashii Liibaan isku wada qaado waa mahadsan tahay Fatima ma santa abay arrinta ku saabsan dadkii meesha ka hadlayay meesha horta rag iyo dumarba waa ka hadleen mucaarad iyo muxaafidna waa lahaayeen dabcan xoogaa zaada lagu daro miidiyu waa wada tabinayeen wixii meesha laga sheegay oo dhaliilaha runtii dhaliilahaasna dadka intooda badan waxay base uga dhigayeen sharciga iyo xeeroosaadka iyo dastuurka waxa uu qabo iyo taxliil ama falanqayn ay ku sameynayeen arrimaha siyaasadda ayagoo markaas duruufo huwinay kaliya ziyaado waxaa ku ahaa gabdhaha walaalaheeya oo ixtiraamka badan runtii aan u hayo arrimihii dambe oo runtii oo caydaha oo xildhibaanada loo jeedinayay taas ani waxaan aaminsanahay inaysan meesha ku jirin annaga xildhibaanaan nahay xildhibaanku xasaanada uu leeyahay oo huwan yahay waxaa laga rabaa marka haddii la siyaasad hadlay in uu la siyaasad hadlo wax la iska sheego oo la yiraahdo waxaa sidaas iyo sidaas yihiin ama sidaas iyo sidaasa habdhaqankaasaa leedahay aniga mararka qaarkood dadka waa ku tilmaamaa waxaan idhaahdaa qofkaan habdhaqan noocaas iyo noocaas uu leeyahay wax mushkilaha ay leedahana lama arka laakiin xogaaga yaroo ziyaadaadka ah oo lagu darayana runtii meesha kuma jirin sida hadda uun loo buunbuuninayo loo jaa'ifaynayana aniga ma qabo haddii wax khaldameen xildhibaanaanna inaan isqancino waxaan waa kaa khaldameen ama waxaan qalad ay kugu ahayeen walaalay ama walaalow gafay kugu helaysa yiraahdo wax meesha ku jira waaye marka dadka bini'aadamkaana qaladku waa ka dhici karaa maalin walba anaga waa naga dhacdaa waxaan aaminsanaha marka cudurdaar inay leeyihiin ayagana dhinacood in looga cudurdaaro warka ay yiraahdeenna aniga sida hadda loo qaadaa dhigayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan loo huwinay aniga ma qabo gabdhaha Soomaaliyeed sharaf iyo karaam ay leeyihiin wanaagaan u haynaa in sidaas loo tacmiim loogu sameeyo oo la yiraahdo kulligood waxaanay wada aaminsan yihiin ama waxaana istaahilaan sidaanay u dhaqmayaan inaysan meesha ku jirin aan aniga aaminsana arrinta ku saabsan muddo kordhinta si sax ah haddii loo keeno oo xeerasaadka iyo procedure-ka aad sheegay hadda lasoo marsiiyo ma iyidi mise yeele muddo kordhintu waa xaaraan dastuurka ma waafaqsana walaalkay 4 sano aniga leeyahay dastuurka ii sheeg madaxweynuhu 4 sano uu leeyahay dastuurka u sheeg xukuumadda hadda jirta xil gaarsiin waaye inta doorashada lagu jiro ayadaa sii shaqaynaysa prime minister cusub marka uu yimaado oo la qariyo ra'iisul wasaarihii hore joogay sii joogi ma waa taga sharciga tilmaama ra'iisul wasaarahaas cusub baa booskiisa qaadana xukuumadda soo dhisa laba dhinya ra'iisul wasaariya la magacaabay waa la dhaariyay mas'uuliyadda asaga la wareega golihiisa wasiirada ra'iisul wasaarihii hore oo golihiisa wasiirada ay joogaan oo isagu taga muxuu u taga dastuurka tilmaama walaalow marka wixii dastuurku tilmaamay oo yiri waxaanu xaaraan idinka yihiin ha u dhawaanina in sideeda looga leexdaan rabnaa wixii oo noo ogolaado yiri waxaan waa idin ogol yahay shaqadan ka qabsadan inaan ka qabsanaan rabnaa
wixii intaas ka dhaxeeya wada hadal ay u baahan tahay wada hadalkana midka hadda xalna ka socda oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada u joogaan oo lagu xalinayo tabashooyinkii kasoo laabta sharcigii doorashooyinka ama nidaamkii doorasho ee 17 September lagu heshiiyey taas way halkaas wada hadalku ka furan yahay madaxweynaha qolkan uu ku xiran yahay iyo bombooyinkan oo hadda inta u soo dhiiba haba qof uu leeyahay kurida iyo askartan maalin walba midow beeba soo saaray iyo midow basuuka u soo dhiibay iyo midow bastoolo u soo dhiibay ku jira inuu inta u hoggaansamo waqtigiisa waa dhamaadee sidii nin oday oo nabadoon u noqon lahayo doorasho dalku uu aadi lahaa dalkaana crisis-ka siyaasadeed iyo kana uga badbaadi lahaa shaqadeed inuu qabtaa laga rabaa insha Allah maadaama waqtiga uu soo bilaabay inuu soo hayo waxaan siinaynaa saddex maxamed faadumo suleekha maxamed aan ku bilaabaya amni waa mahadsantahay kabol su-aashii waa la weydiiyay ani hoos idin waa mahadsantahay aad u mahadsantahay maxamed inaa saas noo garatay amay aad u mahadsantahay mahad salaad waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal maadaama aad ka hadashay xeer hoosaad aad tiraahday haddana kusoo celisay dastuurka wixii ku qoran baan raacaynaa wixii kaletana xaaraan bay naga tahay wax xaaraan noqon kara male dastuurka wax lagu qori karo wax lagu dari karo waxna laga saari karo maadaama xaaladda siyaasadda ay isbedeshay aad maalin kasta kusoo celcelisay madaxweynihii hore maalinta ka horeyso ka hor xaaladan xaalad ka duwanaan ku jirnay maadaama wadankii xaalad adag ku jiro oo wada hadal aan ognahay hadda inuu u socdo maamul goboleedada madaxweynayaasha maamul goboleedka iyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo wax xaaraan iyo xalaal la dhaho ma jiro waxan waa siyaasad maxaa diiday inay wadaadaas waxan waxa xaaraan ka hortagtiin oo siyaasad si fiican loo wada hadlo idinkuba waa qaylinaysa buuqa dhacaya baarlamaanada maanta baarlamaanka waxa ka dhacay waa ogeen wax xalaal iyo xaaraan la dhaho ma jiree isbedeshay maxaa maadaama wadanku xaaladiis meel xun marayso in waqti loogu daro maxaa hor istaagi kara meesha siyaasadaan ka hadlaynaa kitaabna lama akhrinayo xadiisna lama akhrinayo dastuurka waxaan ku jirin xaalinaysaa sidee ku noqon karta dhici karo miyaa oo loogu dari karo faadumo aad u mahadsan tahay suleekha soo dhawo cami aad iyo aad mahad celinayaa xildhibaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo horta maanta wixii ka dhacay baarlamaanka wax qurux badan ma ahayn malaho baarlamaanka rajo ka sugayey ayaa daawanayay niyad jabna way ku ahayd waxaa ognaha qof kastoo xildhibaana markii la isku yimaado cod buu leeyahay waxna wuu diidi karaa waxna wuu yeeli karaa idinkooy ka hadli kara haddiiba qalad aad idinku aragtaan qofkii qalad arka isagoo qaladka codkiisa kuna diidi kara kuna yeeli kara ma wax saxa bay ahayd inta baanalka lala wareego guddoomiyihii dhammaa ee idin hogaaminayay in laga baloogo baanalkuu soo fadhiisan lahaa haddiise marka ay taas aad xal u aragteen soomaaliya xaaladda ay ku jirto qof walba wuu arkaa waa xaalad cakiran waqtigaaga wuu dhammaaday madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday xukuumadda waqtigeedu waa dhammaaday waddo doorasho oo saxa oo lahaya ma laha dadkan idin daawanaya idin dirsaday idinka sugaya mustaqbal waddadee u wadan iliiji doorashana ma aragno idinka waqtigiinii dhammaadayna waxa lagu daro waa diidanahay baad leedihiin haddaan idin salaamay waa mahadsan tahay suleekha marka qof kaloo saddexaad qaadan maadaama maxamed uu su-aashiisa noo daay aad u mahadsan yahay xuseen soo dhawo walaal waad mahadsan tahay walaal camey saaxiibka xildhibaan mahad maxamed salaad si gaar ah ayaan u salaamayaa iyo guud ahaan dhegeystayaasha ku jira barta haddii aan soo koobo maadaama waqtiga uu ciriiri yahay ustaad mahad salaad sidaad og tahay waddanku waxa uu marayaa xilli xasaasi ah isla markaasina muxaafadka iyo mucaaradka labada dhinac waxaa ka muuqata in mid waliba waxyaabaha ay isku hayaan uu ku adkaysanayo sidaad og tahay waxa aad ma aragtay la soo dhisayey 20 sano ee ugu dambeeyey laga soo bilaabo dowladdii cabdiqaasim ilaa iyo midaan hadda madaxweyne farmaajo kalsoonida beesha caalamka iyo sidii dib loo yegleeli lahaa dhismaha dowladnimada Soomaaliya marka ku muuqataa isqabqabsigan iyo qaasahan taagan dhinaca doorashada iyo dhinac ay ku adkaysanayaan inay dhaawacayso kalsoonidii beesha caalamka ay ku qabtay sidaad og tahay 60% miisaaniyadda ama dhaqaalaha dowladda federaalka ay ku shaqeyso beesha caalamka ayaa bixisa
wadamo walaalo iyo saaxiibo ah reer galbeedka iyo carabta iyo weliba dowlado kale marka maxay qorshaha idinka haddii aad tihiin mucaaradka tallaabada xigta aad qaadi doontaan haddii دكتور حسين aad u mahadsan tahay kalsoonida beesha caamka aan ku joogayna su'aasha dambe waan adoo raali ah oo ku ixtiraamin ka qabanaya xilliban soo dhawow waa mahadsan tahay waxaan ku bilaabaa Faaduma waxay tiri dastuurka wax xaaraana lama arko wax waa lagu dari karaa horta shuruucda marka la samaynayo sharcigu waa inuusan xukumaynin markaas ama uusan xuquuqna sina qaadaynin wax markaas taag waana sida nidaamka hadda dalka u degan ee shuruucda ay tilmaanto kuwa garsoorka ay kamid yihiin oo kan sharci dejinta uu kamid yahay yani aniga marxalad aan ku suganaha markaas sharci aniga ii brotekmay oo la nin waxaanu xuquuq u leeyahay hala siiyo ama waxaas laguma samay karo shuruucda dalka iga xanibaya in wax waajib ay tahay ama qasab ay tahay in la igu fuliyo sharci uma samaysan kara aniga Soomaalidu waxay dhahdaa adigoon xirnayna xeer la dhigtaa xeerka sideedaba waxaa loo sameeyaa wax suurtagal ay tahay inay timaadeen laguma daaweeyo wax markaas taagan waxa markaas taagan waxaa daawo u ah waxa markaas noo qoran waxaan doonaynaa marka sharcigan wixii uu tilmaamay ee uu yiri kow laba loo sameeyna inaan sameynaan doonaynaa wixii uu yiri lama samay karana inaan sameynaan aan doonaynaa waana mid anaga aan ku adkaysanayno tusaale ahaan madaxweynaha waxaa la yiri 4 sano waa muddaxileedkiisa baarlamaankan waa 4 sano leeyahay aniga kuma darsan karo ma dhihi karo maya muddaxileedkaygu wuxuu noqonayaa 10 sano laakiin waa dhihi karaa war sharci aan sameeyo 4 sano markay ii dhamaato xildhibaanka iga dambeeya la soo dooranayo imaanayo 8 sano waa joogi karaa ama 10 sano waa joogi karaa waa dhihi karaa oo sharcigaas xeer waa laga dhigi karaa laakiin xeer aniga xuquuq siinaya ama ii diidaya nidaamka xeer dejinta anaga noo qoran kamid ma aha dastuurkuna hadda sidaas dhaqangal kumaba ahanba hadda dastuurka naga reeba isaga ruuxiisa xaaladda dalka uu ku jiro maxay ahaaday in wax lagu daro miyaysan aboonana madaxweynaha wax lagu daro xaaladdan dalka ku jira madaxweynuhu isagaa geliyay Soomaalidu waxay dhahdaa caloolo waxay ku jirtay kuma biskoot waxay ku bukootay kuma biskootaa la yiraahdaa madaxweynuhu isagaa dalkan xaaladda ku jirta geliyay caqabadahan abuuray kala aragti duwanaanshaha iyo kala irdeyntan maamuladii dalka iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa sameeyey dadka laayo guryahoodii ugu duulay kuwa dawladda u dhiibay waxaasoo dhan oo dhibaatada madaxweynuhu isagaa ka shaqeeyay asagii marka ka shaqeeyay ha lagu sii abaal mariyo ha sii joogo oo dhib intaan ka badan dadka ha ku sii hay anaga ma dhihi karno anaga waxaan rabnaa madaxweynuhu inuu doorashada aqbalo doorasho aado haddii la doortana waa la shaqaynaynaa haddii laga guulaystana si dimuqraadiya sidii kuwii isaga ka horreeyay xilka ugu wareejiyeen oo labada dhinac inta ka istaageen gacmaha u hayeen inuu gacmaha u qabtaa la rabaa nidaamka uu hogaansamo walaashay Suleekho waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan guddoomiyaha ayaad baloogteen anagu guddoomiyaha maana baloogin guddoomiyaha kursigiisii uu ku fadhiyay meeshiisii uu fadhiyay waa soo istaagnay hortiisa nimid waxaan u sharaxnay sidii wuxuu jiraa xafiiskiisa aan ugu tagnay oo soo sharaxnay waa naga soo indha adeegay oo waa soo tago waa yimid markuu yimidna waa la hadalnaa waxaan dhir guddoomiyow sharcigu sidaan ma qabo xerosaadku sidaan u qabaa dastuurku sidaan u qabaa nidaamka hoggaansan baarlamaanka yuusan duminin meeshaan aad fadhidid iyo mas'uuliyaddan ahayd xildhibaanadan aad u haysaa wixii aan ku dhiibana mas'uuliyaddeeda si sax oo sharcigu tilmaamay noogu qabo ayaan lahayn wixii uu nooga jidleeyo uu yiraahdo waxaan waa idinkaga jidleeyay ka raalli ahaadan oo sharciga ku qoran waa yeelaynaa wixii aan uga jidleena oo sharcigu si cad u tilmaamana inuu guddoomiye u hoggaansamaan rabnay waana mid aan u sheegin ilaa haddana waan aaminsanahay waan u sheegayna dalkan xageed u wadaan dalkan waxaan u wadaa dib u heshiisiin doorasho inuu aado quraadiyan xukunka lagula kala wareego muddo kordhin mid madaxweynena kama shaqayn karna kana shaqaymayno mid annaga kama shaqayna kana shaqaymayno doorasho in la aado heshiis la gaaraan madaxda dowlad goboleedyada jooga iyo madaxweyne Farmaajo inay inta isku yimaadaan dalkan doorasho loo jiheeyo waxa la isku haayo lagu xisaabtamo laga xeertamo waxa la dhigto lagu heshiiyo la aado ee dalka doorasho wadadeedii loo jiheeyaan rabnaa dictatoriyana ma rabno muddo kororsina ma rabno anaa eri ciidan ka yeelaya lama arke qorigayga iyo cabaysana ka yeeli mayno qofaan ka yeelayna lama arko inuu aan rabnaa nidaamkaas iyo shuruucdaas noo qoran ayada aan ku dul shaqayno heshiiskiisa 7 Sebtembar oo doorashada lagu aadeeyana
isaga inta la dul fariisto waxa ka qalqaldan laga toosiyo tabashooyinka ka jira doorashana la aado dadka lagu qanciyaan doonina insha Allah diyaaliga saaxiibka Xuseen Saxnuuni waa ku salaam saaxiib waa maasan tahay arrinta ku saabsan kalsoonida beesha caalamka iyo isqa qabsigan iyo khilaafkan iyo waxaan taagan runtii waxaad soo jiray waay runtii oo hadda muddooyinkan dambaba runtii aan dareemaynay waxaanan aaminsanahay hadda ninkan odaga asagaa meeshaan dalka gaarsiiyey beeshaan caalamka waa joogeen xalanay joogeen shirar nooma qaban jirin iskuma kaana yeeri jirin wixii ka dambeeyey xilligii kumeel gaarka laga baxa 2012 madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynaha federaalka iyo prime ministerka ayaga israatin jireen siyaasiyiintu ayaga wada fariisan jireen waa la isqanci jiray wax heshiis lagu yahay doorasho lagu aadi jiray laakiin ajaanib intana soo dhex galaan nama dhihi jirin kaalaya aan isku kinkaano isma aaminaydiina amnigeena aan sugno adigana inta ii deg adigana inta ii deg inay yiraahdaan runtii nasiib darro iyo waxyaabaha hadda aadka u foosha xun runtii hadda madaxweynaha naga runtii horseedka uu noqday ay ka mid tahay waana rajaynaynaa insha Allah inaan kasoo kaba doono dabcan ay qolkiiba konton bixiyaan miisaaniyadda dowladda ciidamada mushaarka siiyaan shaqaalaha dowladda siiyaan dowlad goboleedyada kabaan budgetkooda tan federaalka la kabo mashaariic horumarineed oo malaayiin lacag ay ku baxdo ii sheeg bil kasta laga hirgeliyo dalkan wax jiro waaye abaaraan noga haynaa waa ku mahadsan yihiin haddii wax naga qalloocdeenna waxa naga qalloocda annaga Soomaalida inaan inta isku nimaan isku qancino ayaan dhaana walaalayaal wadadan wada ka aboona jirtee aan isku tanaasulno oo wax isdhaahno oo waxaan heshiis kuna aan adduunkana hor tagno dadka nagana caqabada ay ku jiraan iyo meeshaan runtii kala wareega ay taagan yihiin wadadii saxda ahayd ay doorashada ku aadi lahaayeen istiqraarkooda iyo horumarkoodana looga shaqeyn lahaan ka shaqeyn inaan dhaan annaga nagala raba wixii aan ka gaawanina waa ka cudur daaraynaa laakiin waa nugu weyn tahay taas inay meel mar noqoto insha Allah xildhibaan su'aal dhexaysa haddii aad leedahay gudoomiyihii baarlamaanka wuxuu ka in oo extension la aadayo markii extension haddii la aado oo loo ahaanin waaqic ayaa dhulka ka dhalki doona waaqic waxaa dhalan doona practicekeeda ay shaqeeyaan canshuurta la qaado dabcan idinkana waa diidaysaan tar meeshaas kama imanaysa inaad meeshaas isla tegin hadduu walaalkay horta extension الامر الواقع وحاء ظروف دالكان ku jiro oo u baahan dadkan ladan doorashada amr الواقع waa kaas ana ku darsado mursal farmaajo haday yiraahdaan kama shaqeynaydo oo mana shaqeynayso waxa dowladda madaxweyne farmaajo sharci uu meeshaas ku joogay mursal iyo baarlamaanka nagana sharci aan meeshaas ku joognay sharciga aan lahayn muddadu haday naga dhamaato amr waaqica loo hoggaamay tahay dad mas'uuliyiin oo dalkan loo doortay oo ku fashilma dalkan doorasho inay gaarsiiyaan muddo xileedkoodina dhamaaday amr waaqican dadku waxay ugu hoggaansanayaan dowladnimada loo raaco canshuurta loo taga oo kan loo soo xiraa oo kan loo sii deynayo shuruucda dalka tilmaamay dalka midnimada tilmaantay haday dhamaadeen xil sharciyan kula joognaa leenahay xuquuqan leenahay waajibaadaan saaran inta sharciga tilmaamay wixii sharcigu tilmaamay ayaa amr waaqic noqonaya insha Allah qofkay u tahay doctor iyo cali ayaan wada walaalkii maad salaad wuxuu sheegay mahad salaad iyo tiimkiisu xaggay dastuurka kaga qoran yihiin in 12 milyan oo Soomaali ah oo doorasho sugaysa inay doorashada ay hor istaagaan halkee ayay kaga jiraan sharcigaas xaggay ka keeneen maadsanta doctor cali soo dhawo walaal salaamay walaalow waa salaan qabo guud ahaan horta waa idin salaamayaa walaalkay inta ku jirta mahadow Soomaaliya waxay maraysaa meel adag doorashadii ayaa la isku mari laayahay
ummadii Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxa qof walbaba qalbigiisa ku jira meesha loo socday waxa dhici doona nidaamkii 17kii September lagu heshiiyay ayaa qof walba leeyahay maxaa hortaagan waxa muuqata baarlamaankiina inaad kala jaban tihiin sidoo kale dowlad goboleedyadii qayb kamid ah iyo dowladii dhexe kala taagan tahay cid saddexaad oo muuqata oo arintaasi dhab ah u gasha oo garanta oo maslaxad ka shaqeysana ma muuqato adiga oo xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan oo Mahad Maxamed Salaad la dhaho muxuu noqon karaa contributionka aad ka geysan kartid in dhinacyada iska soo horjeeda si maslaxadi ku jirta la iskaga horkeeno looga shaqeeyo wadankan doorasho xasiloon oo la isku raacsan yahay inay ka dhacdo waa mahadsantahay السلام عليكم دمانتين أدبادين سلام يا قاسة حلبان كينا حلبان waxaan ku weydiinayaa maadaama wadanku ku jiro xaalad aan qurux badnayn hadii ciidan la keeno golaha baarlamaanka oo lidinka mamnuucina gudaha u gashaan xildhibaan maxaa sameynaysaa maadaama wadanku xaalad adag ku jiro mahadsanid nashaad marka su'aalihii intaasaan qaadanayna xildhibaanka ku noqonaa waa mahadsan tahay su-aasha walaashay doctoresada magaceeda maysa sheegin inaan annaga hor taagannahay 12 milyan inay doorasho aadaan hadda ma naqaan annaga meel hadda aan ku hor istaagnee waxaan la qaylinaynaa maalin kasta war doorashada ha la aado doorashada ha la qabto war mudugdin waxaan la taagannahay annaga intaas waaye ayadii aan rabnaa dadka wax tabanaya gadaal u haray ka tabanaya hanaanka doorashada lagu heshiiyey mid madowga ka soo laabtay iyo runtii caqabadaha ku jira ku gadaaman sidii loo suulin lahaa oo wax raalli la iskaga yahay doorasho lagu aadi lahaa qof walibana wixii ilaahay uga calfay oo uga dhexeli lahaa taas way annaga waxa aan ka shaqaynayno annaga uma taagnin caqabadna kuma nihin doorasho inaysan dalkan ka dhicin doorasho inaysan dalkan ka dhicin nimanka meeshaas jooga oo ninkaas odaga ah oo madaxweyne farmaajo hormuudka uu yahay uu leeyahay muddo korrin la ii sameeyo weeye ninka hortaagan asagaan ka rabnaa marka insha allahu inuu ku qanco muddo korrin wax la yidhaha inaysan jirin nin odaya oo nabadoona inuu inta noqda yiraahdo war dadkaa la isku baadigooba yaa wax tabanaya walaalow raalli ahow adigu maxaad rabtaa saan adiga intaan waa suuragal intaana suuragal ma ahan horaha loo socdo intaas isagaa laga rabaa waxa hadda afkiisa ay ku xiran tahay inuu dadka inta u tanaasulo dhibkan uu ka dhaafo canaadkan dadka uu ka dhaafana waa isaga saaxiibkay cali yaasiin waa mahadsantaa saaxiib soo dhowow waa ku salaamay maslaxa in laga shaqeeyo runtii wax meesha ku jira waaye waana ila tahay in caqliguna shaqeeyo xigmaddu shaqayso maslaxada dalka iyo dadka laga fiiriyo duruufta gaarka markaas qofka uu ku sugan yahay iyo waxaan waxa uga dhex jira kaliya uusan ka fiirin wax waa la heli karaa waana la wey karaa waana xilka waa la waaya waana la helaa oo ilaahay ayaa bixiya bini aadamku si kasta u doona heli maayo laakiin ninka laga rabo inuu cidda u waayeeleeyo oday u noqdo tanaasulka xaggiisa uu kasoo bilowdo wax waliba hadda gacantiisa ay ku jiraan allah gacantiisa wax ku jiraan ninkan odaga ah oo saaxiibkeena madaxweynaha waaye isagaa laga rabaa inuu dadka inta u tanaasulo banaanka yimaado u yiraahdo nimayo raalli ahaada wixii qaldamana waa la saxayaa waxa sida ay nagi karaan waa sidaan iyo sidaan laakiin hashaan caanaha badan qof waliba uu doonayo guus inay ku hoyato isagoo og maal hadduu yiraahdo sumad gooni aan ku dhiganaya kuma dhiga karo waxa roon waxay tahay in sumadda inta laga dhaafo la yeeshaan barorta aan ku tartanno ninkii ilaahay siiyo sumadda ha ku dhigto asaga 4 sano weeye midda hadda maslaxadu ku imaan karto waan rajaynaynaa insha allahu inay waqtigeedu ku timaado hadda waa bilaabatay oo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada jooga labadii habeen la soo dhaafo waa shirayeen maanta waa shireen berri waa ballansan yihiin waxaan rajaynaynaa insha allah gunaanad fiican ayaga inuu ka yimaado caqabadna aan lagu noqonin oo qorigan dabka ah oo madaxweynaha iyo mursal ay la roorayaan jaanis la siiya ayaga oo runtii la isku waafaqo sidii loo meelmarin lahaa waxa madaxweynayaashu ay kusoo heshiiyeen doorashada dalka looga qaba lahaa taasaana istiqraarka iyo runtii kalsoonidu ku jirta nashaad walaashay su-aashaad i weydiiday haddii naloo diido golaha waxa aan samaynayno hadda nalooma diidin markii naloo diido kulli xadithin xadiid markaasaan ka hadli doonaa insha allah waxaan yeelayna haddii alla yiraahdo waa mahadsanta xildhibaan waa mahadsan tahay inta aanan u gudbin dadka su-aalaha weydiinaya waxaa jirta in adiga iyo xildhibaano badan oo 61 ah constituency-ga amatashaan
ay ka yimaadaan hirshabelle iyo galmudug sida cadna madaxweynayaashaas waxay ku dhinac yihiin fikirka ama laba dhihi karaaba waxay macnaha sida perceptionka loo arko inay dhanka dowladda yihiin madaxweynaha ay dhanka kala fadhiyaan idinka soo ma aha in aad soo deliver gareyn weydeen aad miiska keeni weydeen si doorasho loo qabto xitaa haddaan dhankaaga kuu raacno labadii madaxweyne kale oo dhankiini ahaa oo qabiilkaagii ahaa ay miiskaaga keeni kari weydeen xildhibaanadiin 61 ah ee beeshiina ah haddaa ula jeedid nimankayaasha ah oo aad isku qolada tihiin u fahmo miiska hadda waa joogaan hadalkiina waa ka shaqaynayaan maqnaa iyo koonfur galbeed waa hadda waxa ka shaqeeya iyo ra-iisul wasaare Roble isku raadinayay ayaga waaye hadda waxa meeshaan farmaajo oo lahayd raggii kale oo aan soo qancino habeenadan iyo maalmahan ay la shirayeen habeen sii horeeyay waa keen ay goboleed iyo murashaxiintu waa isarkeen oo waa wada fariisto waa balansan yihiin waxaan aaminsanahay siyaasaddaanu si Soomaaliya dartan oo waa ka baxdo dadku groups ay noqdeen waa la kala aragtid wanaa karaa iyadoo maahan deegaan kale oo ku arag siyaasi ka soo jeedina deegaankaaga siyaasi jooga waa ku aragti noqon karaa marka wax diidaya lama arko khilaafna kama jiro waxaan aaminsanahay laba u yihiin dalkaana dowlad goboleedyadii la isku soo baadi gobol isku keeno kadibna dalka doorasho loo jeehay ayaga iyo bada soo qataan inuusan caqabad ku noqonin la meel mariyaan isagana ka rajeynayna insha Allah waxaan qaadanaynaa bilan range tactical bilan soo dhalo xildhibaan ku salaam adigana mudane xildhibaan maxad xufuulan ay kala goboleedii idinoo mucaarad Soomaaliyeed ah oo Soomaali cod ayaan ku doonayay inaan ku weydiiyo bilan range ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeedna salaamaya waxaa ogaa maanta dowladda Soomaaliya la asaasay oo hadda bahayd adii rag badan marka dowladdii hore ku jirana waxaad ahayd maxaa marka ma dhihi karaa adiga iyo aragtida oo raba in wixii haddaysan maaragtay ku lug lahayn meeshii iyagu ay isaga muuqan inay ciidayaan codkan oo ku cunay ama ku ciiday inaad tihiin xaaladdiin xildhibaanadana mucaaradka deegaanada aad maaragtay matashid ay isaga taageersan yihiin magaalada muqdisho iyo gobollada meel kastana waxaa moodaa inaad adiga ilaa maalintii xilkaad qabatay aad mucaarad ahayd marka ma ku fiican tahay xilligan inaad dadka ka hor dhaqaadaan adiga kuwa kula mid ah haddii maadaama xilkii dhammaaday ka tagto meesha aadan baxta waxa ka hadlin amay ku fiican tahay walaal waa maasan tahay range tactic waa maasan tahay camay saan waa soo dhaweynayaa xildhibaankana waa soo dhaweynayaa haddaan su-aasheeda hore u galo xildhibaanka for your information aad siisay caawo waxaa ku sheegtay in gudoomiyaha baarlamaanka u tagteen aad kala hadasheen waxyaalaha iyo tuhmada aad qabteen kadibna aad isku fahmi weydeen kadib waxaa qaadateen go'aan ah in aad carqaladaysaan oo awood u adeegsataan habsami socodkii baarlamaanka for next day oo isniinta ah haddii gudoomiyaha baarlamaanku sidaas la mid ah idinkana uu idin adeegsado awood ciidan oo bannaanka la idinku wada celiyo xildhibaanada la yiri baarlamaanka carqaladeeyeen habsami socodkiisii lagu soo eedeeyay qodobkaas maxaa qorshaa oo idin yaala xaqsi soo umar gudoomiyaha baarlamaanka haddaad kulanka carqaladeyseen idinkana inuu bannaanka idinkaga saaro waa mahadsanta xildhibaan adiga ay kugu soo aadaysaa adeeg soo noqonaysaa way waa maasan tahay su-aasha oo bilan waa maasan tahay walaashay
maamulada qaar ayaad xulafo la tihiin ama la noqoteen saan u fahmay annaga maamulada in aan siyaasiyiinta hadda maanta joogta in ay isku xulafo noqdaan ama hal dhinac laga soo jeesto ama la kala aragti duwanaado wax iska dabiiciya waay sababta waxaan ka shaqaynaynaa waa siyaasad siyaasadduna waa masaalixdana waa qofba dhinac aragtina dadku waa kala aaminsanaa karaan marka taasaa lagu beesgaraynaa waxaan aaminsanahay qofka aaminsan isku koox waan noqon karnaa waxa aan wada jirin waxaan jirinayo qofka jirinayana ama isku maslaxa noqon karnaa ama kala maslaxa noqon karnaa marka wax diidaya lama arko waa siyaasaduna haba dhinacay jirtaana loo jiraa marka jilayaashaasaana kamid nahay inaanan hadda ceeb ku lahayn aan u malaynaa raage waxaa tiri mucaarad ayaad ahayd waxaaguna waa cadkaanu ku cunay ama ku ciideey iyo shacabkiina ninkaan odaga ay taageersan yihiin maad naga tagteen walaalkay horta waa mahadsan tahay mucaarad waa ahay waa sax aragti ayaan aaminsanahay dowladdan maalinkii ay timid ilaa maanta wixii aniga aan ka sheegay dhammaanteed min alif laaye iyadoo hadda kasii tiro badatay hadda meesha la joogaan marka horta wixii aan la qaylinayaa hadda ummaddu ay wada arkeen oo xilligaas aan sheegayoon lahaa war meeshaan dalkaanu wadda sax kuma socdo dictatoriya loo celina iyo kooxaysi ha laga dhaafo ninkaan odaga talaa la siiyo tiiyaan walaalkayo horta haddana aan ku taaganahay anu xilna kama doonan xoolala kama doonan waana dhaqan iska soo jireena dadku system hadday ka tirsan inay difaacaan waa run tii horan ka tirsanaa waa difaaci jiray waana ka tirsanaa siyaasadeedaan wax ku lahaa aragtiya wax lagu waday aragtidaasaana wixii aan qaba ka toosinay waxa dadku ay qabaan oo dhaliishaana waa dhegaysanayay ku dili mayn kuna gaalaymayn marka tan hadda untaasaa ziyaado ku ah waana dhaqan iska soo jiray oo hadda prime ministeradii hore madaxweyne xasan sheekh uu ra-iisul wasaarayaasha ka dhigay ayay ahaayeen wixii hotel jazeera inta ku shiray qaylinayoo lahaa wariyaa ka soo bax meesha waqtigaagiyaa dhammaaday baabuur ma qaadi kartid inta ma yeeli kartid ayaga ahaayeen wixii ku mudaharaadii ayaga wixii mooshinna ka abaabulayay qof weli hadda uu ku duulay oo ii sheeg uu dilay ama uu dandareeyana ma jirin mana dhicin marka walaalkayow annaga mucaaradana waa sax ra'yiganagaan cabiraynaa sida wax noola muuqato waxaan rabnaa marka sidii dalka lagu soo dhaqi jira ninkaan odaga inuu ku dhaqo dagaalkan iyo qabqabtan iyo dadilowgan ummadda inuu ka dhaafaa la rabaa insha allah haddii hadde talo ku leedahan inaa ku tusaaleyadan aan kaa codsan lahayn in la taageersay inaan la taageersanayn waxaa lagu ogaa lahaa madaxweynayaasha xilka ku wareejiyey mudaaraadkii ma baajiyeen kii 26 ma baajiyeen oo qoryo lama hor istaageen kii lagula heshiiyey 4 bisha ee uu yiri anaa amnigiisa sugaa sidaad aragtay dabaabaad iyo ciidamo iyo wada kastoo la xiro umuusan istaageen taasoo marka waxay ku tusinaysaa dictatora isku kalsoonayn inuu asagu yahay annagu shacabkii aan haysano shacabkanagana naga dambeeyaanana taageersan yihiin maalinkanaga ha noo ogolaado aan la soo baxna isagana maalinkiisa aanu ogolnay xukunkii iyo xoogii iyo xoolihiiba isagaa haystee hala soo baxa walaalo taageero waxaa lagu ogaadaa sideedaba qofku maalinka uu yiraahdaa laysoo garab istaaga ama hala soo baxo in loo soo baxo marka hadduu diidan yahay dadka inay mudaharaadaan oo qori uu haysto xabad la hortaagan yahay dee nin hadda dimuqraadiyad u socdana ma ahan nin dad aaminsanna ma ahana nin qorigaas caaradiisa inuu wax ku muquuniyo aaminsan waaye taasuna horay usoo shaqay weydaan leano kuwa adigaa xoog badan u shaqay weyse walaalow ka toobadkeen dalkaaga iyo dadkaagana u turaan leena ninkaas odaga ahoo filada jooga adiguna haddaad naga gaarsiin kartid kolleyba hadda sidiisi au hadle waa kaa codsanay inaad naga gaarsiid insha allah haddii alla yidhaah tactico su-aasha uu weydiiyey oo ah isniinta awood ciidan ayaa laydin adeegsanayaa iyo waa laydin eedeynaa horta markana la eedeynayo ko horta waxaan u baahannahay in nagula soo eedeeyo sharci oo annaga dalkan nidaam garsoorna waa ka jira mid sharci dejinna waa ka jira procedure oo xeeroosaadka golaha shacabka uu tilmaamayana waa jira haddaan dambi ku leenahay ayadan dambi ku yeelan doonaan nala dhihi doonaa waxaanan ku leenahay anna waxaan aaminsannahay sharcigaa lagu tumanayay qodobadii sharcigaayo lagu tumanaya aanan hor istaagnay inaan lagu tumanin oo la baajiyo oo aan iri halaga joogo sharcigu ma qabee dastuurkuna ma qabo xeeroosaadka golaha shacabkuna ma qabo marka dastuurkaana noo fasaxay iyo xeeroosaadka golaha shacabka oo qodobadeedii aan haynaa inay nala doodaana u baahanna arrintan awood ciidana la isticmaalaya xagga laga dhaca haddaba ciidamo u joogeen meesha waa keensadeen oo waa uga buuxeen meesha hadday qoryo soo qaadayaan oo dadka laynayaan annagu gacmaha kuma dhegelin oo walaal waa soo qaateen hadda ka hor dhici maayo anigu waa horaan u sheegay xilligeedan ka jawaabaynaa insha allahu markaan duruufteedii waqtigeeda aragna insha allah
xildhibaan waa mahadsan tahay waqtigana aad u noo hayaa wax yar baa haray waqtiga xildhibaan kula soo balnay farxa liibaan samiira hani afartaas qofood hal mar isku wada qaadan xildhibaan nabadgelyo farxa soo dhawaa camay horta aad baan kaaga mahad celinayaa madashan aad mar walba mas-uuliyiinta inoogu keentid xildhibaan mahad salaan gaar ah waan ku salaamayaa walaal waxaan doonayaa inaan horta idhaahdo mid waxaa taariikhdaa ku xusi doonta maantana waxaad hore istaagteen ogow malaayiin soomaaliyeed baa ku taageersan oo ku garab taagan waana idinkaga mahad celinaynaa aniga su-aashayda waxay tahay kooramka hadduu maanta buuxsami waayo haddii haddana isniinta dad la isugu yeedho ma kula tahay inayo dad ku fil oo u marsiiyo wuxuu doonayo waana mahadsan tahay ku soco waxaa ku xiga liibaan soo dhawo liibaan السلام عليكم عمي ومشاهد معان وكاغا mahad celinayna xildhibaankana waa salaamaya iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya xildhibaanka waxaan weydiin lahaa xildhibaanne dowladnimada Soomaalida dalka hub far badan baa ka jirto guud ahaan dadku waa iska wada dhibaataysan yahay baarlamaanka Soomaaliyeed maadaama iyagu ay matalaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan adinku inaad samaysataan guddiyo u kala dab qaada dowladda iyo mucaaradka oo mataqaanaa halka aan hadda aan dhexdhexaadka waxaan ka raadinaa warkooda mar walba aan raadinaa safaaradaha Yurubiyaanka iyo Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya waxa ay ka yiraahdaan arrimaha Soomaaliya kaliya idinku markii inaad samaysaan guddiyo dhexdhexaad ah labada dhanba dad la aamini karo dowladana u taga mucaaradka u taga oo wax isku soo dhaweeyo oo noocaas ah door noocaas ah idin muuqda ama santa liibaan Samira السلام عليكم وما هتسنتهاي ما يمقلس عمي اسف عن سمير كسع ولا thank you والله وما هتسنتهاي إن حلبانكا مدن ما هتسلات إن وان سلامية مدشنا وان سلامية سؤال مركان قالوا إن أرنكا حلبان ذا إن صوماليا horta baarlamaanka in lagu murmo la isku dagaalo waa wax in adduunka ka dhacay waliba baarlamaankeena waxaan ku amaanayaa ayagoo different ideology kala aaminsan inayna gacan iskula tagin xildhibaanada adduunka qaarkood waxaan arkay meel Europe ku yaala maalin hore in xildhibaan inta la qaado qashinka lagu riday marka qaar kuraasta la isku qaraaca inkastoo ayna fiicnayn laakiin wax adduunka ka dhacay xildhibaanada Soomaaliya maxaa baawarkooda ka qariyay maadaama iyaga magan looga yahay madaxweynaha bari imaan doona kan maanta joogo muddadiisa u dhamaatana mudana farmaajo iyagu ay keeneen kitaabna ay soo mareen inay qof u noqdaan rabaayad maxaa kalifa su-aashan waxaa iila socota waa isla hal su-aal waaye Samira walaan su-aashaas dadka dhan ku celinayay waa mahadsan tahay dadka odiran ku celiyay halka su-aal okay waa mahadsan tahay Samira hani soo dhawaa walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين آد بني سلامي حلبان كنا آد بنو سلامية سؤال شد واحد هاي ما كعرفني ما أنتو في كده عاي قولها برلمانكا وجرنا حراسات قوانا يا dadka historiska ama buuqiyo sameeya maxaa dhici kara isnida soo socota teeda kale ma jira xeerkaas inuu dadkan qabto oo liidiido xildhibaan soo dhawo waa mahadsantihiin su-aasha oo farxa waa mahadsantaa walaashay soo dhawow arrinta kooramka ma la heli maayo kooram horta meeshaan waayadan damba lagamaba shaqaynayno runtii procedureka baarlamaanka sida loo qaribay qayb ka tahay tiri aan joogin in la sheego dadaan joogin in loo saxiixo la yiraahdo waa loo saxiixay marka sharci darro waa ku dhaqmi karaan oo haddaba midda ay ka shaqaynayaan waa sharci darro ay ku raadinayaan muddokororsiga isla ayadii oo kale way mari karaan laakiin hadda waxaa la yidhi albooliya indire xalaala ma dhashee waxa ay sameeyaan uun xaaraanay noqonayaan marka ciduna hadda ka dhegeysan maydo sida hadda dastuurka uusan u ogolayn ayaysan haddana aysan u ogolaan doonin insha allahu dadka Soomaaliyeedna aysan u aqbali doonin lamana yeeli doono xoogna hadda caqligii xoogga waa laga soo tago hadda zamankan lagu jiro ninkan odaga isaga uun ku daalayo ma ahane wax weyn oo hadda
u samayn doonto ama usoo korrin doonto inay jirto umalayma sumcad beel iyo inuu dadku karaamo beelay inuu ku adduunay akhrisaa geliya un waay wuxuu dheefay arrinta liibaan soo jeediyey oo rool dhexdhexaadin in la qaato wax laisku baadi goobo oo labada dhinacba la isku soo dhaweeyo war wanaagsan waaye waa tala meesha ku jirta insha allah waa qaadanaynaa waa laga yaabaa aniga hadda in la iiga habboon yahay oo cid kaloo hadda dhexdhexaadinta ka shaqay karta ay jirto inkastoo hadda marar badan aaba isku dayo qayb aan ka ahaaba dadkaas wax dhexdhexaadinaya laakiin mar kastoo wax la isku dayo in lasoo dhexdhexaadiyo meel suka la keeno ninkan odaga ahaa meel dambe u fadhiyo runtii fashilinayay waana hadda sababta uga shaqaynaya xataa dowlad goboleedyadu hadda isku tageen oo ayagu doorashadii wixii la isku haystay in laga heshiiyo diyaar u ah inuu hadda fashilintoodii ka shaqaynayo oo lugaha ku dhagan yahay marka waa rajaynaynaa insha allah in taladaas la qaato waana kaa gudbinaa anigana insha allahu ciddii ehelo ana waa la wadaaga insha allah aada ugu mahadsanta samiira arrinta ku saabsan awoodeenna ama awoodda xildhibaanadu maxay u arki waayeen ayaga madaxdan doortay runtii waa arrin kusoo laabanaysa xildhibaanada kulligood ma wada ahan laakiin in badan oo kamid ah waa aaminsanaha runtii inaysan awooddooda u jeedin sideedana annaga xildhibaanka marka lasoo dooranayo ma ogtahay waayadii hore magacaabitaan ay ku imaan jireen mar dhaxa haddana ergo un wax dooranayso si uun saamayn loogu lahaa imaanshahooda ayay ahaayeen haddii doorasho qof iyo coda la gaaro waxaan aaminsanahay dadku uun mabda iyo aragti iyo waxqabad ayaa xildhibaanka lagu dooro lahaa waana usii dhawaaneynaa maalinba maalinka ka dambeyda markii horeba odayaa soo magacaabi jiray xoogaa waa laga soo korseeyo ergee timid haddana inaan kasii gudubnaan rajaynaynaa insha allahu inkastoo runtii ay ahayd wixii hadda 2016 lasoo sameeyey in horumar laga sii gaaro maadaama 2012 xildhibaanadu siday ku yimaadeen horumar laga gaaro oo runtii meeshii aan hore usii soconayn gadaal aan u laabanay oo madaxweyneedkii oo dhammaada haddeertaan aysan jirin wax doorasho heshiis ugu yahay oo kalsoonidii dadka dhexdooda ahayd oy luntay oo xoog iyo ciidan iyo caburin in wax lagu booba la isku dayayo oo muddo kordhin sharci daraa laga shaqaynayo waxaasuna ay ahayd wax runtii waa hore laga soo tegay oo hadda zamankan dambe soomaalidu aysan dhaqanba aysan ulahayn ama aysan arkayn oo dhaqankeedan siyaasadeed hadda soo dimuqraadiyoobaya runtii wax laga soo gudbo ay ahayd haddana waa rajaynaynaa insha allahu inaan waayo aragnimadaas inta kasbano xildhibaanadu ay fahmaan mas-uuliyadda saaran berrina ay ogaadaan ayaga ruuxooda inay dadka ay hortegayaan oo codkooda ay ka codsanayaan inay kula xisaabtamayaan maalinkan meesha uu joogo wixii uu dadkiisa iyo deegaankiisa u qabtay iyo sidii mabaadi'da dimuqraadiga ee dastuurka uu u difaacay waxyaabaha lagu xisaabi doono ay noqon doonto insha allah hani in naloo diida meesha ku celcelima dhowr jeeraan ka jawaabay arrintaas haddii naloo diidaa wax sharci nagula diidaan u baahan oo la yiraahdo sharcigaana la idinkugu diido 1 2 3 4 wixii sharcigu qabaan anaga ogolnaa wixii sharciga diid kasoo horjeeda ma ogolin sidii maanta u diidnaan u diidaynaa intaan noolnahay insha allah waa mahadsanta xildhibaan aad u mahadsantahay waqtigii aad uu nagu yimid waqtigan kula badna saacadii bar u ahaa marka inta su'aaladooda dhiman hal mar aan wada qaadanaynaa dabcan su'aalaha qaarkood way kuwa hore ka jawaabtaa laga yaabaa inay isku wada yimaadaan marka waxaan kaloo rabaa inta dadka ay joogaan inaan u sheego Cami Falis habeen dambe waxaa la balansan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadli doona midnimada waddanka sidee u saameyn doonto doorashada iminka socota waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar 8 barka xilliga Muqdisho noqonaysa marka dadka si su'aalaha ugu fududaato ha soo follow gareeyaan Cami saasi ku fududaanaysa dadka si inaan arko maxaa kumaan kuna qof hal mar ma wada arki xildhibaan Saciid waa mahadsan tahay Cami aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii dadaalkaaga iyo inaad nala wadaagtid hadba noo keentid qof aad muhiim u ah runtii mahadsalaad wuxuu ku jiraa xildhibaanada ugu saamaynta badan baarlamaanka hadda waqtigan la joogo waan uga mahad celinayaa runtii dadaalkiisa in Soomaaliya hore u socoto oo dawladda curdinka aan bohol laga tuurin su'aashaan weydiinaya waxa weeye xildhibaane maadaama Soomaaliya baarlamaan ay leedahay 2 aqal hal aqal oo ka mid ah ma samayn karaa muddo kordhin haddaanba ka soo qaadno in muddo kordhin sameeyo iyadoo aqalkii sare uusan ku lahayn wax rool ah waa mahadsan tahay Maryam السلام عليكم والسلام يا عمي iyo xildhibaanka iyo asxaabta ku jirta barnaamijka kulli maadaama waqtiga yar hore u galaya ani waxaan jeclahay xildhibaanka inaan weydiiyo arrinta xasaanada xildhibaane ma jirtaa wax sideedaba
qofka xildhibaanka ku jira golaha shacabka uu ku weyn karo xasaanadiisa baarlamaannimo oo banaanka uga istaagi kara baarlamaanka haddii uu sameeyo qodobo aad noo sheegi karto oo si gaara ku jiro dee xeerkan lagu dhaqo baarlamaanka ee xor hoosaadka ama ugu yaraan ganaax uu ku qaban karo haddii uu jirana dhaqamadaas maxaa kamid ood nooga sheegi kartaa waa mahadsantaa maryam barola cabdinaasir soo dhawo walaal عامي وما سنتاش كان حلو ما سنت هذا ما سنتها هنا برنامجين تيمد أو قلت سؤالين لقويدي سؤالين كويدية سؤال شيء ده هرو قلها حلوان الطريقة يا قرميس طريقة سوق رمتي حسن على قير وعاد وقلواي فرماجة يا كسوتي يوم عار نقضي نيل جو حس صورة قلا ينا وقتها فرماجة ولا مثلا نقضي سام جوت هدي لعل فرماجة لا بس نيلو وحامد دون بدل عماد دون waxaa suurtagal inuu ra'iisul wasaare imaado oo mucaaradka ka imaado dhinacaas suurtagal ma tahay adoo mabdi aan ogeyn 3 sano ama 4 sano soo dhaafay aaminsanaa oo farmaajo aad u diidanaa in farmaajo wax uu hogaamiyayo ay kamid noqoto oo wasiir ka noqoto su-aasheedu waxa waaye suurtagal ma tahay inaad kamid noqoto wax uu farmaajo oo hogaamiyayo way cadda cabdinaasir marka waqtiga maadaama uu gaaban yahay walaalayaal araarta aan ka gudubna toos su-aasha u galna zakariya soo dhawo زكريا شوشو أنقد بينات شوشو سودوا ولان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عمي وكم غلا مين مغشيت هذا قبسها واي هي وانقول يا راي السلام عليكم اللي بنكي هو السلام ما صلاة هذا والسلام عليا اللي بان كميدا بالشدة آمت الشو عدكودنا أكو هذا الشيء هذا أبو فرح سنة هاي إنام يعني صغير قبل البرنامج كان ما فالكتن كان كهلا عاوة marka waxaan rabay su'aal inaan ku weydiiyo oo ah haddii oo dastuurka uusan fasaxaynin in la qabtay maxaa la yidhahdaa ii sheeg doodaas in la furo maxaa ku kalifa guddoomiyaha inuu goobta imaado mahadsaned zakariya shuushu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت ماذا شفتوا سنتين وأنا ما هذا علينا يا مدام كان سين حلبان كان سيدو كلا إيو حلبان هذا ما ارتشر عجي سرينته إلى علينا يا هدي أن سؤال شيء قد بنا واحد هاي حلبان مدام ما مدحوينها أن كوا قونين إنه تنازل لي مادو مركي لا يسقب صدو قدوميه برلمان كنا وقلت شاب كان مدحوينها هدي أي نقطة مدحوينها سي شرع الدراء حل قلو برلمان كمدة أما هل جروب أو مدحوينها مركز تابع سن إنه يقدر على بس saamayn intee la eg ayay dalka ku yeelan kartaa maadsana suushu idinka raalliga ah aniga wuxuu ii sheegay inuu khadar qof inuu saarnaa haddana ma arkayo marka hadduu khadar saaran yahay ha soo qabsado haddii kalena xildhibaanka u gudbiyo ani ma arkayo khadar inuu ka degayo muuqataa marka xildhibaan soo qabso waa mahadsantihiin aadaan kuu mahad celinayaa su-aalihii وانا سؤالها انت سأود بس حلبا مركا وانا كسر قبل وانا سو معنا قلنا نادي سعيد أوري سو ملانا حلبا سعيد في العادة أوري يوم هل أقل مدو كورين مسمى كرام مدو كورين سيدا إذا بشر الدراب سيدي إذا قضب دستورك أما الدستور قضب دستوري haddii loo baahdo in la taabto labada aqal ee baarlamaanka waa inay horta go'aan ka wada gaaraan waana inay 3 meelood oo 2 meel ay ku meel mariyaan waa marka qodobada dastuurka oo tilmaamaya muddaxileedyadana waa saas dalkaana duruufuhu soo maray 64 markii hadda doorashada la gelayaba iyadoo dalka lagu soo duulay oo cadow Ethiopia ay ku soo duuleen oo dagaal dalka uu ku jiro ayaa doorasho la galay oo sidaas doorashadii ay ku dhacday xilligeedii عبد الشيد على شرماك الله ونحرسته قعنا وكذا قال لما إننا قعنا دورشة كوجلينا واتي وراحلي هلا هي مركا بالكا وساس دورشة دي سوف دبلو دي كرم دكتورنا لو سمي كرم بتعلو دورشة لير دورشة إلا هذا واي لغدا أقرأ برلمان هل أقولوا كل جيس تجار جوان كيسو وفالي نقنا عمو شقينا لما فرماجة نساس وأوجي inuu soo shaqeynayna waxa ku gorgortamo ayaan ku sii joogo dadka uu ku dhibaateeyo u baahan yahay kulliga saan u malaynay arrinta ku saabsan xasaanada xildhibaanada walaashay xasaanada xildhibaanada qodobka 7aad dastuurka ayaa qeexaya xildhibaanka laguma qaadi karo dacwo ciqaabeed lama xiri karo lama baari karo qof ahaan
hoygiisa iyo meeshii kale u gaara haddaan lagu qabanin asagoo faraha kula jira dembi sharci ahaan khasab ay tahay in lasoo saaro amar qabashaa lama soo qaban karo procedure loo maro leeyahay oo haddii dembi uu yimaado xildhibaanka qaabkiisa loo maro baarlamaan loo geeyo ogolaansho laga helo ii sheeg maxay ahayd xasaanada looga qaado wadadeedu waa dheerta marka taas dheertaan ma raba faaladeeda inaan aad ugu dheeraado waa wadooyin badan ayna leedahay laakiin inaan kaaga sheegay waaye xildhibaanka xasaanadiisa sharcigu waa arkay cabdinaasir arrinta ku saabsan farmaajo wuxuu hogaaminayo inaan qayb ka noqonayo farmaajo wuxuu hogaaminayo oo ii sheeg nidaamahu leeyahay ama dib ha loo doorto ama yaan loo doorane ninkaas odaga ilaahay intii uu joogo ha ku anfaco haddii dalkan dib lagu soo doortana anoon xilna ka rabin xoolana ka rabin aan la shaqaynaa on leeyahay madaxweynaha ummadda u tahay imow haddii aan la dooranna asagoo nin oday aho banaankaas joogo sharfan oo calaaqa naga dhexaydoon leenaha warduqiyo waa maasantee soo dhawowo dariiqyada aan isla iskaga leexanaynin ayaan runtii wada joogayna insha allah haddii alla yiraahdo dadkan waa dad siyaasiyiina isbartay ehel ah isku deegaan ah maalin walba la iska soo horbaxayo siyaasiyiintan afar istaqaano waaye colaad shaksiyo annaga naga dhexayda lama arko farmaajo siyaasaddan isku haynaa siyaasaddan ku kala aragti duwan kala aragti duwanaanshahaas wey aniga asaga waxaa naga dhexeeya maana wax kaloo naga dhexeeyo dhibaataa lama arko aniguna xil u doono maayo haddeertaan isaguna maa salaadkii 4 sano mucaaradka soo ahaa inta wacda kaalay xilli qaba ma lahan anigana hadda caloosheedii abitaadkeedii ma hayo insha allahu marka intii uu soo joogo ilaahay ku anfaco dadka ha aado doorasho ha aado xildhibaanada lasoo doorto ha tartama haddii lasoo doortana waa la shaqaynaynaa insha allah hadduu guuldaraystana sida kuwii ka horreeyay ay u guuldaraysteen oo guryahooda ay u joogaan oo saaxiibada loo yaho salaanta la iskaga qaadaho shaaxa loo wada cabaho xulafada loo wada yahow isaguna kamid noqon doona insha allah haddii alla yiraahdo arrinta guddoomiyaha muxuu u yimid oo sakariya weydiiyey wuxuu u yimid isagaa la weydiina annaga waxuu noo keenay wax sharciga waafaqsan maahay xeroosaadka golaha shacabka ma waafaqsanan iyo dastuurka noo yaala saasaanan ku diidna wuxuu u yimaaday iyo ujeedada uu ka lahaa iyo cidda uu ka shidaal qaadanayay asaga arrin u baahan diyo adeertan inaan ku fogaado ma rabo shushu su-aasha ay weydiido ku saabsan arrinta muddo kordhin inay u samaynayaan ma fahmin cameeyo haddii su-aasha la iigu celi karo waa ficnaan leed adoo raalle shushu soo qabso waxaan ujeedaa macnaha haddii ay dhacdo qol mugdiya in la yidhaahdo madaxweynaha muddo kordhin 2 sano ayaan u samaynay aana aragna madaxweynuhu wax tanaasuli inuusan la imaanin intii siyaasadda uu ku jiray kuley toban deertan uu jeebkiisa ku jiro saameyn la egay ku yeelan kartaa ummadda Soomaaliyeed oo markii horeba foor ku heshiisay inkuna uu aad u yaryahay oo mahadsantahay waa mahadsantaa walaashay farmaajo horta 4.5 kaas aa sheegayda uu ku yimid labadii maamul goboleed oo hadda kasoo horjeedana oo kuwaas deertaan kasoo horjeedo siyaasad ahaan aysan iswaafaqsanayn ama inuu dadkiisii la heshiiyaa la rabaa uu yiraahdo war waxaana wax ku rabaa laygu siiyo ama inuu dastuurka u gaansamaa la rabaa labadaas wax ka dhexeeyo farmaajo annaga uu ii sheeg uu nagu maamuli karo meesha ma taalo marka duqaas ilaahay soo aruuriyo waxa kaliya oo annaga aan u ogolnahay oo aan leenahay niyow dadkaana waa ku badbaadaa dalkaana waa ku badbaadaa muddadaadii waa kuu dhamaatay waa inaad doorasho aadi doorashadaas ama uu ku guuleysto ama looga guuleysto wax kaloo optiona oo meeshaan ka furan lama arko xeerjajabna annagu ka shaqaymayne xildhibaanaan nahay waxaan ka shaqaynaynaa wixii dastuurkaas noogu qoran iyo xeerosaadka ayadaan ku dhegana wixii sharcigu naga reebana waa naga reeban yihiin wixii uu noo ogol yahana waa noo ogol yihiin ayadaan rabnaa inaan ku mitidno waxaan ku kala aragti duwannahay haddaan ku heshii karnana ahlan wasahlan oo inta ka wada hadalna aan dhihi karno war intaan sharciga nuguma qornayn ma ka wada heshii karnaa haddaysan sharciga nugu qornayna sharciga in inta loo laabto wixii sharciga ku qornaa ayada aan meel marino waxa kalena aan meel iska dhigna ayaa fiican marka taasaan ku dadaalaynaa insha allah aad u mahadsantahay xildhibaan anagoo hadda kula hadlayno warqad in official inay tahaan rajaynayaa si buuxda inay usoo baxdaan macnaha sida hadda u muuqan waa shaqo ka joojin adiga iyo xildhibaano kale lagu sameeya soo baxda intaa khadka ku jirin inaa aragta ma aqaan oo 15 xildhibaan aad tihiin marka arrintaas ma dul istaagi kartaa waa mahadsan tahay waa darsaynaa waxa nooga gudbanna waa ka qaadaynaa insha allah haddii alla yiraahdo haday xaqiiqad noqoto waa mahadsan tahay xildhibaan waxaan rajaynaynaa dadka waxay follow garaynayaan reactionka ay ka bixiyaan xildhibaan mahad iyo xildhibaanada kale xildhibaan aad ayaa u mahadsan tahay
sida aad mar walba diyaarka noogu tahay inaad dadka shacabka soomaaliyeed aad ka dhajisid ama aad usoo imaatid aad inform garaysid waxa sida u socdaan. marka dib aan kugu soo noqonayaa inaad soo gunaanadid adoo mahadsan. waa mahadsantihiin aad iyo aadaan idin salaamaa. runtii waana ku faraxsanahay inaan su-aalahan iyo aragtidan aan isweydaarsanay. waxaan rajaynaynaa dalkanaga insha allahu marxaladan kala guurkaahu ku jiro ilaahay inuu naga samata bixiyo baral ammaan anagoo nabad qabna dalka iyo dadkuna ay nabad qabaan aan si salaama ku tagna insha allahu haddii alla yiraahdo. inta jacaylka kursiga madax dardarana waxaan rajaynaynaa inuu caqligu usoo laabto insha allah oo maslaxada dalka iyo dadka ay u tanaasulaan ummadda la isku wado waxa ayaha dalkan runtii ka talinayana aan ii sheeg maxay ahaaday aan gacan ka geysano sidii aan dalka iyo dadkaba ugu horseedi lahayn. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa talada iyo tawfiiqda teeda wanaagsan ilaahay inuu nahagilisiiyo. aad iyo aad waa mahadsantihiin adigana waa mahadsantahay camil. xildhibaan mahad salaad aad u mahadsan tahay. dhammaantiin dadka halkan su-aalaha weydiiyey kuwa aan su-aalaha helin aadan waa cudur daaranaya dadka gacanta taagay aan deeqsiin karin almost 1000 qofood ay rabtay inay su-aal ku weydiisay xildhibaan. marka aad u mahadsan yihiin dhammaantood. xildhibaan waa mahadsan tahay waana fasaxan tahay. qolkiina saasuu gabagaba noogu yahay. habeen dambe professor cabdi ismaaciil samatar oo ka hadli doona impactiga ay ku yeelanayso doorashadan midnimada waddanka. professor cabdi ismaaciil oo ah qof university ah muddo dheer lagu yaqaanay iyo doorashadan iyo impactiga ay ku yeelanayso ayaa habeen dambe qaadan doona. waa mahadsantiin dhammaantiin. qolka saas ayuu ku dhammaaday. nabadgelyo. mahadsan.